अगस्त्याय विद्महे मार्तण्डाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। സാരഥ്യം وصدقك لا يا أخي سنة ابني سنة ابني يا أخي أبو أريما شركة مرة إن أي شيء تأدي سواء أنا سأقول مرة إيران لقوا سوي على صوتها ما أنا وحير سوي أبو كاتوكم مغلين دي جوكتا خدوا خيبتشن هذا وروني ولا سعته محكمة مردو جواني نجربته وأكبر يا صدق دلوقتي ندا على مرة بليس كم فاس تذكر محكمة هذا حلية ده اللي جار مشغول وجرا أبو كاتها وولاد الأرماء أساح عليها وحول بنا أساجك كديجا وسوا ما أنا أبو كاتها هاولو كل سنة كرا نكاس نفي عن ويا كدا وحول بأس أوكي كديجا حدنا مشغول ويا وملايا محكمة دي نستجرا معقولة هذا الكمر ها ابن محكمة دي جوكتا أي شيء بعدي محكمة دي أن جوجي لما تلفونك كقبل الله وريا مقايضة نسكفردي وسكبها شالو يا أخي نك عيرة وحول بريب سعر كدي أوكي يا كلينت يا بيفدي يا أخي وحيرو كذا هذا بإيمانية صدقوا نقصيها بدنيا كذا يا أخي استمع أي وابي جالس أنت وسع تسوح نموجان كيس يرى يصبح مرة ترتيب ازدجاج دقنيا مغرب كان صار كينا النبذي سلمان أوكي وقوقتي هلو مستر كمار وكسلام يعني كان أنت ولا يا ابن ماتيو وحول بيني وناك كنا ما رجينا
teeda kale ninkan saaxiibkeyga waa saas darteeda aan kiiskiisa adiga faraha kuugu saaro waxaan kaa rabaa hoolaan oo dhan inaa xalisid okay ay hadda waa kaasii taga waad degsana labadiisa sheekaysta macsalaamaya waa maasantay saaxiibkii kumaar ay adaa mudan jaaw haye kiiskan iga sheekay bal gabarna dee xafiiska ugu wada hadalne okay muxuu ma yaqay in adiga ma gaarina saaraay maya xafiiskaas ma ka wada xafiiskaaga ka wada xafiiskayga okay xafiiskayga tirsomaan ayaan tagaynaa aan ku weydiiyey awokaata kiiska dhan maxaa ku xalinaya ii sheeg wax yar u keediya mudane qof ilaa hadda ku garaac miyaa jiro Mr. Fijian maya ma jiro waayo haddii sidaas taa waxaan ka dhigaynaa adiga booliska inay dhibaato ku geysteen ku jirdileen waxay rabaan kaa samaysteen dacwo noocaas oo kale ayaan qoraynaa oo adigana dhibaato fara badan aad tabanayso kadibna isbitaalka ayaan kuu diraynaa dadkaasna aniga ayaa dacwo ku soo ogaay adigana midaas kama hadli kartid faraha kala bax wax walbo aniga iida hawsha sida loo xabo waan aqaanaa tartiibka waxba ka walwalin ibn soo hadal awokaata even ayaa kula hadlaya tan kale waxaan rabay barnaamij ku saabsan hanti la leeyahay in wax laga ogaado taas hadda lama ogaa karo arrimaasna lama xalli karo marka waqti ayay u baahan tahay calaa kulli xaal marmarsiyada iga daa arrintan iga soo gabagabay sida ugu dhaqsiyaa badan waa garad soomaan arrimahaas dad kale ayaa faraha kula jiro marka inaad iga days ayaa wanaagsanaa lahayd dabcan waxay la tahay inaad og tahay waxaan inaysan nagu cusbeen tan kale ma waxaad doonaysaa sharciga inaad i barto dabeel iskama jirto beryahan nakeen cuntaan soconaynaa aniga waa dherganahay be anigaa soconaa kadibna lacagta adigaa bixinaya jeebkaaga ka bixisa saas miya nakeen adiga maxkamadda waxay u baahan tahay caddeyn la'aanna maxkamadda waxba ma xukunto muhiimadda laguu sheegayo waa intaas adigana aniga ayaa caddeyn la'aan kaa dhigaya waxbaa ka walwalin waa halkan xafiiskaygana keen xafiiska ina suwan yaa umaleeyahay baan weyne iyo yaraan muhiim ma muhiimadda waxaa horta kiiskaaga maxaa ana waa la qiyaani mudane waa lagu qiyaani soo maahan kiiskaaga waa 415 iyo 420 kiiska ma soo dhammaadi waa soo dhammaadi gudaha ayaa ku jiray sheeg bal kiida maalinta lagu deeri rabaa gudaha ku jirna hay warqadda adina diidmada diyaari ah sidee camal ilaa hadda ma barin miya ma dafiid warqadaha xataa si loo diyaari mataqaana ujeedaana dhigiis abkaat waxaan u baahnaa kiiskan sida u dhaqsiya inaad soo gabagabayso okay waa kuu sheegay an inaa ciyuu baxara waan ku dhammaantay camal war kiiskan waa loo baahan yahay ayaan ku dhahay boobsi adig maxaa kugu dhacay yaaqi xaaskayga see uruq haddii la ay hadda ma soo booqan guriga abarteeda jirta haddii uu tegi waayo maanta faruun degdegaa laysiiya aan ku dhahay adaan naagtay iga furey iska fasax mudana sii joo arrinta anaa xalinayo arrintan waxaa laga yaabaa ilaa iyo caawi inay kugu qaadato dhib ma laha teeda kale intana waad ogtahay boosku wuu qeelinaa yaa u sheegaayaba anaa xalinaya hana u sheegi waa maasantahay ah fiiri af macaansiga iga daayaa ani maalmaha waa kaa dareemoyaa fursada igu raadinaysaa laakiin faraha inaa iga qaadaa kuu roon haddii kale imaho mismanju inaa la sheekaysataa booska u sheegaa wayna kuu dhammaanay duqa yaaqi qoftaas arrimeeda mar raaxaliya hadda in lay fur maartaa naftirka haye saqdha haweenima waa lagu wacayaa gudaha soo galada Waaya. adiga maaha qoftaanaan haystaa wax walba markii la soo gudbiyo wixii caddaynaya annagaa idiin soo gudbayeen idinka kawalwala'aada ee waatanaa gabadhii oo kiiskiina qaban Mudane. magaceedana matfiyaa la dhahaa haa waab salaam dadka kiiskooda haysid waa idhikaarada ka qaad wax walbane fokis ahaan inaa ugu dirtida loo baahan yahay waayahay mudane dhegeysi maxkamadda ma imaan kartaana adiga ii sheeg waa imaha weliba anoo rooraaye imaha han ku dhahay waxba ha ka baqin laakiin gabadhan waxaa la rabaa wax walba oo arrintiina ku saabsan inaad ku wareejisiin laakiin gabadhan aad bay u yar tahay waxyaabaad ka hadlaysana khibrad uma laha aqoon sideedaba yaraan magashamaada fiine waa qof khibrad leh arrintaan wax badanee soo qabatiyaan ku dhahay waxba ha kawalwelinaan ku dhihi lahay igraan loq mudan ma soo geli karaa ها واسوق غير كرتا قضية انت كلام سنة سوي igraan loq xafiis qaldana soo gala oo maleynaa لبعض مال فريسة ما دام صوبش سوى حجران ريان maya xafiiskaas iyo xafiiskan waa isku eko mudan micnaa looyarka aw هاو اسكو يجي لك حفيز كي لوا ada maaha laakiin looyar kalaan ka hadlooya mudane ابوكاتو كلمة كادو سامحش هل ابوكاتو كليا يا جو وانا انيغا مغيغا بناكا يكو خوريا ستيش مولور اسكا فيرينو هاي رواقا على املينا ايه كالا سوق لا عادي واي wax yar kom ii soo korta qafaa la hadlaahay هاي قف كالا هذا سوا هاي kumaar dhibanahan shalay ayaan la hadlay maantana wuu soo laabtay sabab midaasan fahmi lahay waxaa laga yaabaa muhiimadaada inuusan si fiican u fahmin
warka duusan dhigaha ka maqlin ma afkan ka geliya kalsooni kuma jirta yaa shakiya ku jira meel kale raadiniyo wax walba hagaagay meel meeshan ka qurux badan haddii aan helo waan buu guuraa saas miya ahey miga hubtaa waan ka hubaa waaya master sundaram xafiiskiisa bannaan meeshaasaa laga rabaa inaad ku boos qaadato ma itire buruntaada miya meeqa lagu karina 15,000 oo rubiis leh xafiiskaasna waan waa ku anfacaya anfac waxaa ka horeeya lacagta halkee laga keenaya lacagta waxaa ka horeysa marka hore meel deg kadib ayaad lacag raadinaysaa familkaaga lacag deen weydiiso ha kuu soo diraan seedigaaga waa aragtay waa kala kacsan yahaano soo gaabo idil asiga ayay u shaqaysaa kaasaa ku dabri karaba maxaad ku naga wareerinaysaa daaya akhay sheekadiisa iguma filne kala keen haddii ani ku bari adiga maxaad samayn kartaa tilaabadaad qaadaysa ma ii sheegi kartaa you are my 50 yaaba tahay adig see waaya haye warkaysiiya maxaa ka sheekaysanaysaa caadi leh joog waan oo degay inuu xafiis furta ayaan kula talinaya ninkan wax qabsado ninkan waad ku daalaysaa mooye hadalkaaga meelna kama soo qaadayo waxna ma hore furanayo adiga rufyaan maanta ayaa ku weydiiyey waaba iska daayaba inaa adi wax kuu sheegay soo ma ogi ha ila hadlina iga kula aamusno hadlaaye wax kaloo samaysamaa weys markaa ka waaninays maduu ninka hadduu xafiis furto waad ogtaa xafiiskayga ayaa firaaqa naqanaya garsooraha galabta wuu imaanaa taas ayaa faa'iido noogu jirto hay maxaan dalbanaynaa kiiska muxuu ku saabsan yahay anshaxuma famil anshaxumo famil ah bas adiga ku darsana ii sheeg bal muhiimadeenna waa kulley guud. aniga waxaas waxba kama ogay sababtoo guurka oo idin waan ka baqaa inaa ka baqdaaba kuu fiican beentaada maan xayiraad ayaa saarmay sida miskiinkan oo kale xaggee maskiinka jooga shabeelnaagood inuu yahay ninkan ma ogid miya adiga muranka iska daa horta dhibka jira wuxuu yahay dumarka murankay dhammeeyeen muran aanan meelnahay weli sheekada muran maba taagnaba gabadha masaakiinta qaladaa laga gala xaqeeda waa inay heshaa ninkaasna ciqaabtiisa waa inuu maraa hadal dhan wuuba dhan yahay soo maa maxaa la iskugu daalinaa sababtaad macaamiisheeda iskugu dagaalaysiin waa maxay haa waa soo socdaa mudan xafiiska laga rabaa waa baxaya naftan miskiinta aasida meel u yeelan ku dhaw dadkaas miskiinta waxaan teeda qabo waxba kaama gelina taada ka adkaa balniyo gabadhan adiga xoogaa xirfadaadaaba ka sarraysa maxaad ka rabtaa oo kululaysanaysaa gabka dheh iska dhaaf xogaa yar waa soo daahayaa hee wax laga ulula meesha maba yaalaanba keligay maahay mudana jiryaana ay soo raacaya ya ma soo daahaya qino maduu haa hay adi ma u bixin miyaa maxaa dhahay aniga sideen ku baxaa hooyadaa ii sheegtay inaad halkan joogto sidaas darteed ayaan ku sug maadaamaad baqanayso waxaan isdhahay israaca cabsiya ani maa cabsanaya micnaha malay af duubanaa keligay haddaa baxsas ma ka wada maya laakiin aqoon haddii kuu leeyihin soo maha maduugadi aniga dhankan midig ayaan ka baxay sababtoo saaxiib ayaan la kulmaya okay habeen wanaagsan soo ima dhihin gurigaaga ku geyna waan ku dhahay laakiin soo ima dhihin ma cabsanaya aniga haa waan ku dhahay haddaana kugu celinaa ma cabsanaya laakiin adiga ima aadan dhihin kuma kaxaynayay waxaaga iska dhahle miyaa mar walba adi laakiin adiga ay tiri iska bax okay dhib ma laha hadda anaa baxay okay bye bye good night haye gabadheed waaba imaadaye ibin oo kula socdaa soo ma aha haa laakiin ani soo raac ma dhihin asaa iska kay soo raaco kaala gudaha soo galay cashay may walaasha iyo seediga ee guriga igu sugayaan marka waanu tegayaa xoogaa ka horle ma dhehino asxaabaan u socdaa inaan ku dhihi karo ayaan baroobaynaya oo haye eedo baayaya isma dhaaf baay wiilkayga aniga ilaa haddeertaan waxaan maankayga gelin dadkeena jaaquub si u khiyaaneen jaaquubna ilaa haddeertaan meeloo cag iyo jandhig lama hayo intee war ninkaas meel khatar ayuu joogaa teda kaleeto waan guulaysanaynaa haddii aan guulaysano meeqaan qaadanaynaa mataqaanaa ebin imise qarashaan soo geli karo aaba lacag badan waaye waaye hadda hawsha ma qabe haysaa maxaan u qaba waaye waryaa hadalkayga maqal cunto cunista jooji yaqeen see diwaanku maqlaa soo hadal qamriga qofka bili'aadmiga siduu isaga barxo ayay annagana siyaasadda noogu baahan tahay mar hadduu jaakuu xilka noo qabto waxaad ogaataa lacag inaan ku dhufanayna markaas kadibne dukaamadeeda heer sare ayay gaarayaan seedigayna wuu kala kacaysaa khatar ayaa noqonaynaa reer dhammaystirane waa noqonaynaa oo lacag haysta ha igu badin xoogaa yar oo keliya maan
faa'iido rasmi ah ma meesha ka hilibka soo lo'da ayaan ka hadlaya aniga waaw hilibkii miyaa igu daree maxaad ka faa'iidaysaa wiilkayga bal faa'iido wax nooga sheeg waxyaabo fara badan xitaa nolosha waxyaabo fara badan ayaa iga qorshaysan kaale waxaan ku weydiinaa wasiir gabadhiis ma igu darartaa sidaad jeceshaa wiilkayga waan ku baryaa walaalkan waxaan karo inaad caawiso garabna aad siiso haddii kale inta ayuu iigu duqoobaa naag maba shukaansan karo inuu guursadana waa u baahanaane gabdhahana damaba ka lahabaasi ayay ka hadlaan siidigiina dooqiisa asaga ayaa keensanayo wasiir gabadhiisa ayay iga haysaa waryaa dhiiqamaa lagu ay geli rabtaa haa siidi xafiiska meesha ii sheeg bal weli arrintiisa waan wadaa laakiin ma dhammaystirin saaxiibkii kumraan ayaa meel furtay asaga ayaan kala hadlaya wax lacaga oo ku weydiina haba yaraateena ma laha maya sidaas ma wanaagsana hooy ka imaatay alaa taleefonkeyga marka hore dhammayso keen kugu daree cadeemaha la soo dhammaystira kiiska laba isbuuc kadib waa la dhammaystiraya firi meeqa waxa naga horeysa aawo qolada loo baahnaa soo gudba eedeysanaa dhankiisa ayaan ka socdaa warqadiha abiilkana waa kuwaana waan soo dhammaystiray wax walbana halkan ayay ku xusan yihiin warqadaha canshuurta ma dhammaystira qabyo waaye markaad maxkamadda qof cafis u weydiinaysa shuruudaha la sameey ma taqaanid miya wax walba meeshay ku jiraane aawahe intay ku jiraan marwa anaan ku dhahay waa waxaas waqti uma haayaan ku dhah mas-uuliyaddaasna adaa qaadays warbixintaada ma dhammaystirna sidaa aaweed dhaxfaankaaga waa la kansalay garsoore kiiska xiga waa inaad igu wacdaan xeerka 257 haye sidee wax u jiraan sina waxba ma jiraan mayga hubtaan shirkadda waan ka soo tegey ya maxaad ku hadlaysaa sabab feelka aniga maxkamadda aan geeyey dukumiintiyada canshuurta waa ay ka maqnaayeen racfaankana waa layga soo diiday marka horena warqadaha koobigooda feelka laguma badarinba eedoo dhanna aniga ayaa dusha layga saaray sijuuna fursad aniga uu igu aflagaadeeyo ayuu helay mudana toomaasna dadka hortooda ayuuba igula qayliyey cid ii aaminaysa maba lahanba looma baahna yaqa waxaas inaad isku mashquuliso hadda kadib annagaad nala shaqaynaysaa okay ma raba markaan cidna inaan ku tiirsanaado inaan isku filnaadaan rabaa beella waay haddii sidaas taa fikir fiican ayaad keentay mudana muloor xafiiska hadda kor ii sheegayso kuu banaanaa ma banaayan waa rabaa dabcan anigaa xalinayo adiga kaale 10 qof lamaad tahay anaa meesha u baahnay laakiin adiga oo u baahnaa meesha maba dhihinay maxaa dhacay adiga kaale balanku beel lamaad tahay arrintaasaan ka fikiraya aniga hay fikirkaaga iska sii wadee xafiiska anaa raba egey yaa meeshaas waa meeshayda adiga meel kale iska raadsan marka waad helaysaa anaa raba markaa dha maxaa u soo boodaya marka hore gaar maxaa u gaari weysayna xafiiska anaa degayniyo anaa degaya kaale anaaba go'aansaday meesha anigaa raba iska daa meel war adiga waxaa rabta hay wada jir haddii aad u wada kiraysataan bal ka war laba qofood ayaa tihiin labadiinna meesha waa idin anficaysaa kiridana libaabay tuu ayaa u qaybsanaysaa ayay go'aan gaarayay maxaa sugaysiin marba haddii aad leedahay labadiina xafiis isla wadaaga fikirkani waxaa wadin iska daaya aniga isoo raaca xafiiska ayaan soo fiirinaynaa soo socda maxaa sugaysiin halkan miya haa waa meesha ay mudana friwa ma baante saaxiibkee dhib ku jira in la caawiyaa loo baahan yahay ay waay haddii saasta jagaa tahay gudaha u soo gudbaasay meeshaadii u sugaadane jaranjarada aalmita ayaad intaa waad ku catoobaysiin ilin fidhigiina badan beryahan abaay caadi maaha meeshaan waa qol nafis laan ku dhah laba qofoodna way wada qaadaa labadiina meeshaan jawi degan ayaa ku wada qaadan kartaan adiga gurigiis kale ma la hadlaan laakiin ها إما وحلا إيه ده horumarinta oo kaliya ku weydiinay taas dhibaato ma leh aniga ayaa xalina lacagteeda dhow leh haleysiyo waqti xadirkan ayaan bawacaa madu maanta waxaan rabaa dhaqsi inaan shaqada ka tago sababtoo qof aan la kulmi lahaa macmiil ma la kulmee maya macmiil ma aha haya waahe arrimo guur
ayaan doonayaa inaan dhexgalo gabadhii aan guursan lahaa inay igu habboon tahay aan soo fiirinaya oo sidaas miya haa waaw isku mid aan ahay ana xataa familkeena guur iyo waxyaabo noocaasay ka hadlaayeen ka gudub arrimahaaga iga sheekee gabadha sawirkeeda ee tusbal sidee u egtaa aan arkay sawirkeeda ma hayo runaantii oo sawir xitaa kama haysid miya waana xiisaynaysaa nin wanaagsanaa tahaye waxay ahaataba gabadha haddaa ka heshta hore ka gursaya waqtiyuusan kaa tegin aan ku dhihi lahaa teeda ka gudub bal arrimaha guurkaaga wax iiga sheeg bal wiilka sawirkiis ma haysaa haa waa haya hooyadee degdegaa ku jira laakiin ani degdeg maba iigu jiraba qof maa jeceshay tiri anna mayaan dhahay waa kana sawirkiisa hay siduu egyahay isku da'na waan hayaa wuxuu aaminsan yahay imtixaanka inuu ku guulaysanayo anigana uu ii helaayo waxay ahaataba nasiib wacan aan ku leeyahay gabadha sawir markaa la soo gashay ii soo dirteeda kale ani hadda xoogaa arrimo raba inaan kusii mashquulo mideeda kale ha soo daahayaa inaan xaafadda geynaysid waa ogtahay taksi iyo waxaan loo joogin ma raaraadin kara adaan kugu tashanaa baay ahay sawir ma ka soo qaada gabadha kama soo qaadin waan soo ilaabay hal sawir ka soo qaad ma ku dhihinoo ani dhib ma laha maalinta farantigeliskiina ayaan la kulmayaa waana ogaanaa haye ma kaa hesha gabadha ii sheeg bal sidaysan iga helin waaw waa arrin wanaagsan aniga isma lahayn gabar ayuu helayaa laakiin ugu dambeyn waa heshay nin caadiyana waa noqotaya maxaa dhaca awal caadi ma ahayn ii sheeg caadi ma ahayn laakiin waa maxaa laakiinna iska daa ka gudub yaaqay hawbi maduu ha igu dul wareegan yaaqay soo jeesta ila hadal wax walba ni dheh waxaan ku dhihi lahaa waan ku dhahay niyo warkaa igu xadine maxay tiri sheeg tartiib yaaqi maxaa u qaylinee aniga ma qaylin su'aal oo keliyan ku weydiinaya ebi isdeji waa ku baryayaa dhiigga ha isku karin okey waan kula kaftamaya waa maxay kaftama ay tiri haa waan kula kaftamaya arrimaha guurkao dhan kaftan ayay xaggayga ka ahaayeen sabab waa istijaabinayana waxaa doonaan ku dhahay beenaan kuu sheega markaan ku lahaa qofna ma jecli ayaan dhahay hooyaday qofkaan sawirkiisa ku tusane yuu ahaa mataqaanaa wiila asxaabna hay adi ilaa hadda xaggee ku maqnayd ii sheeg aniga meel inta ayaan shax ka soo cabay meeshaan iska fadhiyey weliba shax badanaan soo cabay dhiblo سيدي waxaad ii sheegtaa sababta aan halkan u taagannahay yaqi istaji yaqi kiis miyuu quseeyaa allora meed ka shalaysaa kiiskan yaqi nasiita gabadhiisa lagugu dirayaa joose yallahane anigu ahaa gudaha laga abuuco soo baxbo waay yaqi siid adina guluuska iga xir yaqi aan ku weydiiye gabadhiis baa igu dar rabtaa aha jaku waa ku salaam ha jose ganacsigaada inuu kala socdo ayaa maqlay kalama socdo xoogay khasaare yar ayaa iga soo gaartay dhinacyada waan yaabanahay fariiso siidi xoogay kuwa sheerka aan nahayn anaga ayaa khasaare isoo gaarsiiyey labadan berina xaaladdeeda caadi maa marka meelaan wax ka bilaaban ka silahay sidaas darteedan adiga kuugu imaaday midkan kula socdo nin caqli badan waayuu yahay ninkan waa siidigey dabcan waa siidiga ninkan maalintii xilka lay dhiibay ilaa iyo maanta wuu isoo wacayay muxuu iga soo wacayay arrimihiisana mar hore ayaan qorshaynoon diyaarinay adigaba markaad xilka u duruufsaneed aniga ayaad isoo wici jirtay aniga iyo adiga waan issoo wici karnaa laakiin asiga farqi ayaa noo dhexeeyo qorshaha arrintan aad ka leedahay muxuu yahay balse uma aana sheegin qorshaha adiga lagu diyaariyey wax kale ma ahayn xeer ilaaliya in lagaa dhiga ayaa la rabaa aniga fiirihe asiga xataa lama filaan ayay ku noqotay hawshaan markii lagu dhiibo dadka siday noqon doonaan meeshaan waxaa isdagaalooya dad fara badan dadkaas isdagaalaayo waxaan rabaa inaad nabad ka dhex dhaliso adiga ayaana mas-uulka ah hawshaas asiga ayaan u dhiibtay laakiin dadka yaa waay shaaniye abraham iyo shaahuul ahmed labadooda waa kibreen waxaa lagaa rabaa inaad dagaal ku qaadid oo aad iska dhicis magacaada muxuu ahaa ibn matthew dadkaas waa inaad ka hor tagtaa xilkii ku diiday ma waxaad igu wacda hadalka naxdinta inaad ii sheegto adiga marka hore isdeji annaga sidaan wax u filayni ma aysan u dhicin arrintu way isbedeshay dagaal ayaa dhacay anigana waxaan rabaa dagaalkaas iyo brobleemka meesha ka jira in aan xaliyo arrintana seediga ayaan u xil saaray asiga ayaa kala tuuraaya wax walbana dhag ayay noqonaya ha ka cabsanin macnahayga wax kale ma ahayn seediga xil ayaa loo magacaabay asiga ayaana hawsha qabanaya intaas leho
waad aamin la'dahay soo maaha caadi ma tihi yaqi adiga lagugu duceeye la istahayshaa mudane waxaan ba arkaa arrimahan duleelo fara badan inay leeyihiin bulshada dhow maxay isdhihi karaan dhegayso xilaa laguu dhiibay xilkan ha u qabanin waxaa lagaa rabaa dadkaada in aad wax u qabatay haddii aad dadkaada wax u qabatid meel sare ayaad gaaraysaa annaga waxaan raadinaynay dhallinyaro cilmi leh oo hawshaan ka bixi karto hadda adiga hawshaan lagu dhiibay ma ka bixi kartaa ii sheeg waayahay hawshaada siday tahay u qabo mudane xeer ilaaliye haye hambalyaan ku leeyahay waa mahadsantahay mudane udayaan ayaa la dhahaa subax wanaagsan mudane waa mahadsan tahay adiga laanta ka shaqaynaysaa sanaan ka shaqaynaya mudane anigaana codsaday shaqada inaan ka shaqeeyo sababtoo ah meeshaan qadada kadib waa la iska baxaa badalkiisan jirin laakiin station markaad joogto sidaas ma shaqada way ka duwan tahay midda kale waxaan ka rabaa kiisaska maanta oo idil haddii keento si aan u xaliyo wax walbana ay okay ii noqdaan waa garad soomaa mudane adi ma la socotaane xilkan sababta lagugu dhiibane yaa ku bulaalkiisa ayaa waxyaaba ka qaldan sameeyo adina sababtaasaa lagugu dhiibay xilkan inay waxaa la rabaa mogtahay inaad hoos u fududeyso wax walba oo galana aad xalisa adiga marka inaad taxadirkaada qabtay ayaa kaa rabaa mudane anigu ma imaan horta maanta halkan inaan iska fadhiyo aan waxba qaban waxaan ku dhaho oo keliya waa inaad samaysaan si aan shaqadeedii si wanaagsan ugu qabsan ma garatay waaya mudane ma u sheegtay waa maxay joo saaib buu ku soo wacay aroos iyo waxyaaba saasoo ka hadlaaye familka haddee diyaar yihiin bal iga warran ayagana haddaan wacno wax walbana u sheegno arrintooda xallino aabe aniga gabar ayaan jeclahay madafii mooho anisoo kuuma sheegin anaguba gabadhahaas waa ka hel waana kula jeclaana wiilkayga gabar reenja weyana waa horta gabadha aad ayay u wanaagsan tahay laakiin ayagii anaga kala qoomiyad ayaan kala nahay hooy waa abukaato laakiin ani iyadana hal meel ayaan ka wada duulnaa soo moogid ab arrinta sidaas ma aha wiilkayga waay ayada ma ku ogolaateene weli arrintaas ma ka wada hadlin labadeen anaga waxay dhibeen ugu sabiraatay ma jirto dadku waxay rabaana ha dhahaano waan bixinaa kiniisadaan tegaynaa danteennan waan gaaraynaa waxba ha ka walwalin adigu gabadha ciddeeda la yaqaana waana la soo hadlaynaa unukaana wax walba ka soo dhaadhicihayna gabadha qoyskeeda laakiin manduu arrintaas iyadaaba habayn kartee gabadha hooyadeedaan la hadlaynaa mugga hore markaas kadib aan arkaynaa arrintaas ay noqoto arrinta guurkeena sababta adiga familkaaga ogol hadash mii sheegin maxaan kaloo sameeyahay maxaa kaloo sameeya maxaa la dhahaa ani aad arrinta hore ma oga wada hadal maba ii sheegin waxaana labadeenna ka wada hadlin maxaa qof kale uga sheegaysaa ii sheeg aniga waalidiinteeda wax saas weyn uma sheegin wax dhibaato uma arka xataa waalidiintaada haddii aad u sheegto laakiin arooskan si degdeg inuu ku dhacayo soo kulama muuqato ma ogolaan karo guur ilaa aniga aan guul ka gaaro laakiin haddaba waan guulaysana soo maa maya adigaa guulaysta aniga shaqadayda weli waa bilow ma fahamta hadalkayga ilaa aad dantayda ka gaarayna guurka macquul maaha laakiin guurkeena ma aan mid saamaynaya shaqooyinkeena waad iska dhigi kartaa fudeed markii la dhahayo qofka xirfadda doona ha lahaado kolley noloshiisa ayuu horumarinaya middaas waa inaad ogaataa laakiin go'aan gaarista markay tahay qofkuna ma wanaagsan in la qasbo kolley adigana go'aan waad soo gaari kartaa ka soo fikir waan ka sugaya hanandu
xaafadaada ma tagtayna maya gurigan joogaani heshiiska ma soo dhammaystirteen lacagta waa ku lugi maxaa dhacay aan midda kale mar kale haddii ay tan dhacdo waxaad ogaataa sheekada inay isbedelayso maxkamad markaan tagno waxaan ku dhaho keliya ay dhahaysaa inta dhimanna aniga ayaa dhammaystiray subax wanaagsan askari feelasho idil waa diyaaris soo maha diyaar waa mudane kiiska muxuu ku saabsan yahay ii sheeg bal wuxuu ku saabsan yahay gabar la kobsada guri koor warbixinta baaritaanka ma la helay maya mudane shalay ayaa la soo xiray okay halo madu يا أخي مدن ودهاني من وديده وكسوا عيا مركل أنا بدي هاي ورقة كل وقت مش مدن ابي kiiska muxuu quseeyaa teleefoonkaaga teleefoonkayga waa kana markaan dhameen ku soo wacaa kiiskaaga lambarkiisii sheeg 375 okay haddana kiiska waxaa la furayaa CMB 184 qofka codsaday aniga waa garsoore garsoore kiiska aan ka hadlayna wuxuu quseeyaa qodobada kale ah 375 iyo 415 kufsi lagu daboolay ballangur balse kiiskaas waa mid feeg ah warqadda codsiga ahna waxaa ku qoran familkaas in sharaftooda meel looga dhacay dadka laga tirada badan yahayna ay ku jiraan maadaama waqtigan uusan jirin qodob dadkan qabanaya laguna xiri karo maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa in racfaanka ay ogolaato abukaate doodaada mudan xeer ilaaliye kiiskan aniga 15 daqiiqo ka hor ayuu soo gaaray ilaa iyo haddan maanan aqrin xitaa maanan falaqayn booliiskana warbixintiisa weli maysan soo saarin marka maxkamadda waxaan ka codsan lahaa beri in dib loo dhigo kiiska garsoore dib looma dhigaayo xeer ilaaliyaha dartiisna kiiskan in dib loogu dhiga ma wanaagsana ninka masaakiinkana dembi uusan lahayn ayaa dusha laga saaraya marka maadaama uu dhalinyar u yahay maxkamadda waa inay bogan naxariista u aniga kama dhihin kiiskan dhan la iska dhaafay dib loo dhigayaan aniga hadii aan doono kiiskan ka bixi see dib loogu dhigaa garsoore beritoole maalinta fasaxa waa 2 maalin kadib in la soo laabtay tagay tali kiiska mid caadi ah maaha ninkan xabsiga lagu siiyo waa 2 maalin oo kaliya kadib waa soo laabanayna waa saxan tahay ninkan wuxuu u baahan yahay hal maalin oo fursadda in la siiyo si uu caddeemankiisa u soo aruursado maxkamaddan waxaa la iskugu soo laabanayaa maalinta isniinta 10 juun ما أقرنت وأركينا waan ka xumaa runtii taas adiga qaladku ma lihid nando mar kale ayaan ku weydiinayaa ma kula tahay kiiskan inaan ku guulaysanayo aniga gabadheedii kiiskan qofaan adiga ahayn inuu u doodo ma doonaayo adiga ayaan kugu kalsoonahay eedda ma fiican tahay aniga ayaa guriga imaanaya mando even hadalkaaga ma dhegaysanayo miyaane uma malaynayo kulley macquulna ila maaha waan ka xumahay soo fariisa bal maanta o dhan telefoonkaaga soo wacay markaan ogaada kiiskaas maxkamaddiina inuu ka dhacayo yaaqi markii aan soo baxay kadib la isoo wacday soomaan adiga kiiskan sidaad ugu lugu yeelatay familkeena ayaa saaxiiba ahaa weliba ilaa yaraanteena xalayna isoo wacday gabadhaas runtii kiiskan marka hore xamaasadiisa way haysay laakiin hadda waanba ka xumaaday wuxuu ku dhammaa dhibka jira muxuu yahay adiga halkaad heesa waa la socotaa maxkamadda intaad aadaysana dad fara badan oo dacwoonaya waad arkaysaa adigana waad la socotaa annagoo idil wada xirfad inaan nahay waxaad ogaataa saaxiib inaanan sii ahaan doonin sababtoo ah axadda labadeena famil way kulmi doonaan hadda maxaynu ka samaynaa waad aragtahay nanduu kale arrimaheena waan kala hadla wayna ogolaatay
adiga macmiilkaaga waxaa lagaa rabaa reerkiisa arrimaha inay kala hadashto haddii ogolaadaan waa kaas hadday diidaan xeer ilaale kale raadsanayaan manduutani waa shaqadayda waadna og tahay marka ugu horraysay waa kiiskan haddii aan diidana ceeb ayaa ii imaanaysa magaalada idin waa liigu horinaya marka waxaan ku dhihi lahaa sheekadan dib inaan dadka kiiska soo gudbiya waa inaad la hadashaa dadkaas haddii aad la hadashid wax walba way ku xalismaan weliba adigoo iswaalin aysan ahayn soo maaha arooskaasi waxyaabahaas way burburayaan dadka mar kasta waxay igu eedeeyaan maadaama gabadheedu madhugu guurkeeda aan dadejin waaye marka hadda go'aan waxaanba ku gaaray gabadheeda guurkeeda inaan deg deg aan u dhigo yaa qayb basaskan haddii la sameyn wax walba jabi fiican ku dhamaan waxaana qabashadada la gaarin hadda noo sii sheegaysa waxa qabashadada la jooga maad noo sheegtay kuwaasaan kaa dhagaysahayna ma tahalan itaafna wiilkayga dhabkayga daaya doorashada ma ka helinaa ma kuna labada famil weli way wada hadlayaan ebi sida xujran inaan wada hadalno maaho dhinacayga ayay fadhisaa hadda weliba iyadoo naxsan mudan malooraan la hadlaya okay waaye waan ka wada hadlaynaa arooska sida ugu dhaqsiyaha badan leh inuu ku dhaco waaye anigaba sidoo kale arooska meelaha aan tagin in lagu dhigo ayaa wanaagsan teeda kale markaas ayuu farxad noqonayaa haddii kale aniga madax xanuun saa'id ayaan ka qaadaa idinku waxaa dhahda macbadkeena ha lagu dhigo arooska aniga familiyadeyna ka waran meeshaas ma imaan karaane xafiiska isku guurinta haddii aan ka dhigna ka waran sheekadeen haddii aad dhaqanka wax ka barleed waxyaabaha aad ku hadlays kuma aad hadleen midani macquulmaan mana suurtagelayso ugu horeen carruurteyda horta hadalkooda qalad ha u fahmina sababtoo ah qof walba hiddi iyo dhaqan uu leeyahay hiddihii dhaqankiisa inuu tiigsadaana roon annaga hiddiheenii dhaqankeenaan ku dhigahayna inankana kiina ku dhigta inaad murugtaan oo caloosha wax iska gelisaanna loomaba baahnaba waxaad idinka qabtiin noo sheega waa idinla wadaagaynaa faalalooga in loo tago waa kadibna asagayaa noo sheegaa waqtiguu ku habboon yahay guurka taasna ayaa diidaya reen jawiya waay aniga waxaama la yaabanaya faallooga dadka u tagaayo ilaahay iyo dadka ma u kala turjumayaa soo sax maa arrinta maadaama annaga ay noo taallo waxaan ku qasbannaa arrintan inaan ka wada munaaqashoono kadib wixii go'aan ah aan idiin soo gudbin ilaan kiisaan dhexda kula jirnaa markaan dhammayna kadib haddaan ka dhigan kiiska anaga ku jirna guurka inuu dhaca xoogaa maduu aamus kiiska daartu iska dhaafi karta laakiin guurka waa inuu dhacaa qaylo badana kaama rabaya waa saxan tahay aniga dataas shaqo kuma lihi laakiin waxaan rabaa guurka inuu dhaco dambiilaha kiiskiisi markii aan dib u raacnay oo waraaqihiisa aan fiirinay waxaa yimid qof damaananayo qofka damaananayana 50,000 oo rubis ayaa laga qaadaya sababtoo ah haddii dambiilaha la waayo waxaa la siinayaa qofka dembiga laga galay dembiguna uu ku caddaado dambiilaha eedaysanaha haddii dembi kale lagu helo waxaa loo qabsanayaa qofkii damiintay mudan magacayga waa sheef kumar eedaysanaha aabiis ayaana xafiiskayga aan ku wada hadalno mudan shaqadaadu maxay tahay aniga waxaan ka shaqeeyaa wasaaradda qorsheynta ma fahante mudan horta arrinta abiilka wax murugaha ka qabin sababtoo kiiskan afduubna ma quseeyo xitaa kufsina ma quseeyo cid wax ka qortay ood ka diyaarisana ma lahan xitaa qaybta baaritaankan waxay soo saartay ma lahan tan kale maalin haddii dib loo dhigin dhib ma lahan kolley waa shaqadeen annaga fududaysanayno midda kale tan kiiska haddii aan kaga hadlo run ahaantii kiiskan horta arrintiisa ma fududa baaritaanka soo baxayna lama dhihi karo waa la fududaysanaya qodobka 375 waa uu noo horyaalaa oo ka sheekaynaya in kufsi loo geystay weliba guur xalaalna uusan meesha ka dhicin marka arrintan baaritaan lagu sameeyay kiiskanna ma fududaysan karnaa mudane bannaanka kugu sugayaa waayahay dhegeysta mudane gabadhaada waa muhiim inaan la hadlo aniga halkan waxaan u imaado wax kale maaha waxaan rabay inaan kuu sheego gabadheeda inay adiga kulkulmi rabto waan ku fahmi karaa taas dhibaato ma lahan xitaa haddii sanadtii baana gurigaan ugu tagaya mudan mid ayaa muhiim ah oo aan kaa rabaa inaad ii sheegto degaankaaga aan ka wada hadalno abukaatada kiiskan u doodayso hadhow dhibaato amay naga soo gaartaa maya taas ha ka walwalin anshu ma fiican tahayna
booliska oobiga ay qoreen iyo saldhigga waxa yaal runtii maxkamadda kuma filna marka waxaa muhiim ah inaan helno waxa dhacay weliba sida rasmiga ay u dhaceen inaad noo sheegto anshu waxaad ogaataa aniga awokaato keliya kuumaahi ee waxaan ku hadlayaa adiga codkaaga maxkamaddan waxay iga rabtaa wax walboo dhabta ah inaan ku hadlo marka adiga intaas ku xilsaaran tahay waayahay waa idinka dhex baxeenaa hadla hooyo xaaskayga gudahana geliba iska tacajire tartiib gootam iska ilow aqoonta labadeenna inoo dhexaysa ka soo qaad aniga abukaato inaan kuwa ahay waxaan rabaa wax walboo dhacay mid mid in aad iigu sheegto waxaanan doonayaa waxaadan booliska u sheegin walaashaana aad ka qarisay in aad aniga ila wadaagto ii sheeg labadiinna sidee isku barateen seeraa anii iida qolaa isla degneen ayadii kontomna saaxiibba ayay ahaayeen seeraa ayaa igu xirtay kontom sidaas darteed ayaan uga shaqo bilaaba meesha kontomka shaqeeyo labadiinna sidee isugu soo dhawaateen aniga caawiye ayaan u ahaa mar walbana waa isla joogi jirnay labadiinna ma is jeclaadeen marka asiga tiisi iga waran bal mar walba wuxuu ila dhaqmi jiray sida laba qof oo wax ka dhexeeyaan camal dadka xafiiska jooga dhanna way ogaayeen gotham mar un makaala hadlay labadiinna isguursan rabtaan mar walba wuu ogaa ilo hadallada noocan aanay xiisaynin sidaasay taana igu soo celceli jiray neba waxyaabahaasoo kale ana weligay ma samayn asxaab isku dhawaayaan ahayn teeda kale aniga gabadhaas sidaan ku aqoonsan lahaa ii sheeg waxyaabaa ayada niideeda ku jiro maskaxdeedana ka dhex guuxaya sidoo kale dareenkeedana maysan ii sheegan mana ka ballan qaadin inaan guursanayo ayada arrintiin markii dib aan u fiiriya waxa ugu horreeya dhacay maxay yihiin ii sheeg halkow kiiskiina u socday yaabaa qofka baaritaanku ugu sameeyey waan dareemi karaa su-aashan inaad ka jawaabta inay kugu culus tahay laakiin waa lagu qasbanyahay maxaan kaloo samaynaa haweena wuxuu iigu waca qaybta oo deganaa wuxuuna igu dhaha waa wada hadlaynaa keligaaga ma u tagtay marka mudane farmaan xataa meesha wuu joogay laakiin xoogaa kadib wuu iska baxay kadib saq dhaxaal la gaaray markaan labadeena wada hadalnay oo xoogaa la joogay sidee waxyaabahaas noo dhex mareen haddii aad ii weydiisid aniga xataa ma oge kolay dareenna wuu jira wax walbana sidaasay ku dhaceen maalinta kale markaan wada hadalnay waxaan ogaaday ninkaa inuu i guursado inuusan rabin waxaan dhahan gara waaye war adiga mii fahmaysid miyaa anno yaaqi wixii dhiclaa way dhaceen adigana haddii guursaa ilaadaa sidee kuu guursadaa markii sheeg oo maba i jeclid miyaa aniga sidaas kuma dhihin laakiin waxay aatabaata tagsiya noo waca meeshan waan iskaga teganayaa waxa dhacay oo dhan khaladkooda aniga iska leh haddii aan ogaalaa waxyaabahaas dhacay kadib ayada inay guri iga dalbanayso aniga waxyaabahaas oo dhan ma samayn lahayn waxaan rajaynaa wax walba inay kaa dabageysa anigana meeshaas waxaan u imaada wax walba inaan ogaado balse aad ayaan ugu xumaa hostelka haddii aan taga waaba isdeji gabadhaas kadibna gabadha guriga ayaan ku soo celiyey wixii ka dambeeyey wakhtigaasna hooyo aabba aniga ayaa u noqday gabadheeda inay sabarto waa ay diidday oo wax walbana meesha ku soo abdirto ugu dambe waxay go'aansatay ninkaas in ay guursato nolol ay la wadaagto anigana ninkii ayaa telefoon gareeyey aabbeeda ayaa isoo wac weliba isigoo ii hanjawaay wuxuuna rabay gabadhiisa inaan guursado anigana waan xanaaqay oo waan ku qayliyey waxaan rabana waan dhahay kadibna dacwo ayay iga soo gudbiyeen oo waa laysoo dacweeyey ninkaas gabadheeda ayuu khayaananiyey jabna waa uu ku riday inay isdishana wuu ku kalifay ma dhaafaayo haddii aad adiga kiiskan ii xalli weyso oo kugu adkaado aniga aabbanimo ayaan ugu argudanaa ninkaas ma dhaafaayo gabadha waxaa loo baahnaa ninkaas inuu niyadda ka jebinin
laakiin hadda sheekada waaba isbeddeshay wuu ogaa inaan jeclaa waaye muxuu aniga xaqiiqdii markii laga hadlo aniga gabadhaas maahan khiyaan arrin baa jirta labadiin aan idiin sheegi rabo abukaataha kiiskiina daafacaya waa madaafiisamaan anigana waan isku doonanahay horta waan ogahay arrintan inaad aqbashaan aad inay u adag tahay laakiin markii maxkamadda la dhaho annaga kolley shaqadeenna waayo annagaan wax walba samaynayna sidaan u maamulaynan annaga ayaa naqaano tan kalena kiiskan run ahaantii agtayda muhiim ayuu ka yahay haddii guda iska hadal uu jiran oo shaki aad iga qabtaan runtii xeer ilaaliye kale oo wanaagsan waad helaysaan waad raadsan karaysaan haddii aad kalsooni iigu qabtaanna aan wada soconna marka maadafiya hooyadeedaa i soo wacday waxayna ii sheegtay xilliga faallowga lala kulmi lahaa faalaloogan u tag wuxuu ii sheegay guurku wuxuu ku aadan yahay 8 Sebtembar marka annaga subaxii waan baxaynaa mandirkaan aadaynaa hoosheenaan qabsanaynaa ayagana waxaa laga rabaa galabtii inay baxaan kiniisadda ay aadaan eedan lagugu soo eedeeyey adiga ma qarsan tahay maya kiiska waqti waa inaan u qabanaa soomaa okay waxaan iskugu imaanaynaa Sebtembar 2 maalinta isniinta ayay ku aadan tahay markaas ayaan wax walba fiirinayna markii la fiiriyey wuxuu yeelanayaa qodobka 375 laakiin run ahaantii maxkamadda hadda caddayn dhab ayay u baahan tahay annaga waxaa loo baahan yahay gunta hoose ee dacwadooda in aan ogaano markaas kadib waxaa macquul ah dadkaas in aan kula doodno wax caddeena ma haystaan haddaynu helno caddeyn nagu filan waxaa suurtagal ah maxkamadda markaas inaan kaga guulaysano sida haddii inuu keenay ama sawir ay labadooda wada galeen oo kale taas wayna caawinaysaa markaas sooma ilan guul ayaan u soconayay marka annaga caddeyn inaan helno waa loo baahan yahay haba yaraatee waa inaan raadinaa caddeenna waa laga maarmaan ilan kiiskan waa kiis aad u adag sababtoo dumar ayuu quseeyaa markaasna wax walba aynu caddayn karnaa caddayn oo keliya annagana ma caawinayso haddaba runta ayaa loo baahan yahay weliba maxkamadda in laga caddeeyo runtaas ayaa loo baahan mudan anushkaawe gaariga ayay ku jirtaa arrintiisa waa inay si wacan uga hadashay okay bye kiiska magaciisa ay sii 139 hadda ayaa la furayaa eedaysana halkaanuu ku sugan yahay garsoore caddeentuna waa diyaar garsoor bw anisha shifa kumar aniga waxaan rabaa inay halkan ku haraan dadka dacwada isku haysto iyo ninka u doodaayo oo keliya inta kale waa inay bannaan ku baxaan qofna iyuu ku haran halkan nasiib wacan sidoo kale weydiiye adiga eedaysana ma isjecladeen haa okay waad aaminsaneed sooma inuu ku guursanayo maadaama jacayl oo idinka dhexeeya labadiin haa waa aaminsanaa sababtaad u aamintay maxay tahay waxa dhibaatada ii keena waa aaminaadaas maadaama labadiina jacayl oo idinka dhexeeyay waxaan rabaa maxkamad inaad u caddayso sababta aad u aaminsaneed ilan falgal jinsiyadda idin dhex maray taas ayaa la doonaya marka inaan caddayno ila hadal waxba ha xishoon gabadhii la degneed ee seeraa ayaa iga codsatay inaan siifiigayga gootam aan u diro sidaan shaqo uga helo
markay waxna dhex mareen kadib wuxuu igu dhahay inaan ku guursado ma rabo aniga markuu saas i dhaho waa la yaabay mudane garsoore waxaan ku hayaa screenshot ee whatsappka laga qaaday iyo sawirro si qaas ay isugu direen mudane garsoore waxyaabahan aad arkayso idil mudane garsoore waxay caddaynayaan eedaysanaha iyo qofka la soo eeday inuu xiriir ka dhexeeyo qofka aan u doodayo waalidiintaada ma la socdaan xiriirka idinka dhexeeya mudane garsoore anusha hooyadeeda sannado ka hor ayay dhimatay aabbaha arrintaa wax muu ka ogaa goota maskiin oo iska dhiga markaan dhaha arrinta aabbahay aanu sheegaa horu wad xitaa waxaa jirta hadiyado uu keenay sanad guurada dhalashadeeda gabadhu markii saari loo keeno taas waxay caddeen u tahay in guurkooda uu mar dhow dhici doono sidoo kale hadiyaddan waxay sii adkaynaysaa jacaylka iyo wada socodka ka dhex caddeyntan markaan tixraac ku samayna wayba iska caddaanaysaa wax walbaba oo kaynay yihiin qodobka 417 iyo 15ba waxay isdultaagaan kiiska inuu faylid yahay habeenkuu falka dhacay dharkan ayaad xirnayd soomaan haa mudane siday ku dhacday marka gelisyo fara badan inay go'sanaadaan aniga ma xasuustay mar hore ay ahayd sababtu maxay tahay xoogaa markaas qamriyaan cabe dabeecaddaada ma yayd inaad khamri cabto maya waaye maalinkaas maxay kaga duwanay markaas goobtan ay dhahay cab of course ilan qof ajnabi kaama ahayn jacaylkaaga ayuu ah cabitaanka heer ma wuxuu ku gaarsiiyey aad socdo ii sheeg bal wax maa dhacay marka micnaha ma kaa faa'iidaystaan ka wadaa ugu dambeyn wuu ku qasbay soomaa markaas ayuu falgalka jinsiyadeed dhacay soomaa mudan garsoore gabadhan falgalka jinsiyadeed ee ka dhacay wuxuu ahaa mid aan sharci ahayn sidaas ay tahayna qofkaani waa uu qasbay taasna waxay suurtagelinaysaa marka kiiskan in ay noqoto gabadha in cabitaan la siiyey kadibna ay suuxday falgal jinsiyadeed meesha waa uu ka dhacay xeerka 375 ayuu sheegayaa iyo xeerka 90 markii loo fiiriyo miyaad ogeydna qofkan inuusan guur kaa rabin oo u baahnaa oo keliya in jirkaa uu ka faa'iidaysto maya garsoore meeshaan uga baxay ma fiican tahayna waxaa dhahda guluusyada saakadeeda way go'naayeen soo maaha haddana waxaa leedahay habeenkaas wixii dhacay waxba kama xasuusta mise waan qaldanaa gabre labadaas arrin sideen isu waafajinaa sideense ku dhihi karnaa waxaasoo dhan hal habeen ayay ku dhaceen mudan garsoor su-aasha ay weydiinaysaa eedaysana ayay xadgudub ku tahay taasna sharaf uma ahan iyadana waad la hadli kartaa garsoore gabadhan kiiska waxaa ku sii adkaynaya wax kale maaha ee waxay leedahay habeenkaas galuusyadeeda iima xirmaynin oo waa ay go'naayeen garsoore sheekadan waa sheeka baraley sheeka baraleyda xeer ilaaliyaha asaga ayaa samaynayo garsoore dhallinyarada xilligan jirta sawirro waa ay iska qaadaan weliba si wada jira whatsappyana way kala qortaan taasna macnaheeda lama dhihi karo labada qofood xiriir ayaa ka dhexeeya waxaad ii sheegtaa macmiilkayga weligii cod dheer ma kugu yiri inaan ku guursado ayaan rabaa amaba xitaa ma kuu soo bandhigta gura ma kaa codsaday mudan garsoore kiiska aan ka doodayn ma ahan mid gabadhan masjeceshahay mise waa isnacabyiin kiiskan ka doodan waxay tahay gabar lala dhigay inay la guursanaayo kadibna falgal jinsiyadeed lala sameeyey iyo sababta laakiin tan ma ahan midda aan ku soconno iyo caddeema aan hayno intaba macmiilkayga marba haddii uusan guur kala hadlin sababta falgal jinsiyadeed uu la samaynayo ayada maxay tahay sababtay u ogolaanaysa ma ii sheegi kartaa sidaan wada ognahay waxay tahay labada qof markay isjeclaadaan muhiimadda ay u socdaan waa guur iyo kalsooni soo maaha labada qofood oo isjecel kalsooni oo keliya loogama baahna ee waxaa looga baahan yahay midba midka kale in daacad uu ahaado laga bilaabo maanta intay nolol jirto waxaa loo baahan yahay labadiinna si farxad leh inaad ku wada noolaataan dhib iyo dheef aad isla qaybsataan waxaan loo baahan yahay si sharaf leh inaad jecel iyo ixtiraamaas isku siisaan labadiinnaba halkan ma ahayn goobta filimka lagu duubayo waa maxkamad waxaa loo baahan yahay wax walba si sharaf leh in aad ku dhammaysaan yaa qiimadano adigana waan kuu sheegay
arooska markuu dhacay xoogaa yaroo shila ayaa meesha ka dhacay ay okay waad saxantahay هاي مع السلامة ولا تقنع nabadey هيا تريسكيga مع السلامة يريسا بابايا هي مع باي السلامة هيا باي باي هاي دركاس كسو بدلايا dhib ma laha baa anagana waa bixeenaa اوكي een beri subaxdiina waan ku imaanaa waan israacaynaa joy aan kaxaynaa okay dib malaha anaa idin imaanaya ha isdhibina maya baa anaga baa ku imaan karnaa أريا ابنو قولوا عصب قورمة قولي ربطان isbuuca soo socda een alaabtiinu idil xitaa waa horumarsan haye ebeen waa sii baxeynaa hay baay هيا مع السلامة يا tartiib wiilkayga tartiib u soo خير gal يدين ده أنا كان haye joos waan baxeynaa aniga Hey. anugayga hurdaa qabatay qolkiisa haddii aan geyna ka waran ma dhafii mar hore baxday kaalay hoo hadda fiima qabsa baxdane wiilkayga gacanteyda walaalka inaad meesha isku sii dahaysid maaha xaaska gudaha ayay kugu sugaysaa saabax safar dheer ayaa ku sugaya buuqa wiilkayga jacaylka aad jiidan qortay sug. akhriskiisa ayaa laga rabaa daqiiqo haye waay haye baay walaalkay macaan mac salaama hooyo shaabaxeena haye ciao ya orod heeno haye isma dhaqle ciao hooya maanta nin soo wacis telefoonka maba joojinaysaba ubaxaanay ka walwalaya sabab waxay aaminsan tahay ubax haddii la tuuro dhibaato inay imaanayso saa darteed maanta o dhan ay soo wacisaan ku dhahay sawirkan hadda rabaa inaan u diro si aan ugu xaqiijiyey inaan meel dhigay bella waay waxaan isweydiinayaa shuruucyada ay doonayaan inaan ku noolaano marka taas anagana ma xamili karno runtii waa sababta aan kuu dhahay guri cusub aan degno waayo sharciyadooda maahan midaan kontarooli karno anagana qaas noo maahan soo maaha haye waa daalantahay soo maahan hurda maarta daalka adduunka weliba subaxda aroosaa la dhig galabta mid kalaa la dhigay habeenka martiyaa la casuumaya kaaliska arag daalaan ku dhabuux haddii aad sidaan u seexato ma nasanaysaa marka ebi waxaanoo dhan aniga ma jeclan iyo mana fududeen laakiin adiga dartaa u sameeyey aniga xitaa waan ogahay taas markii hore inay nagu adkeed anigana sidaan inay wax u dhacaan aanan rabin balse sheekada reerkeena ayaa ku soo lug yeeshtay weji kale ayay yeelatay annagana waan maamuli weyne kolley sida iyaga rabaan ayay wax walba u dhaceen annagana sidaan rabin soo maaha aye ma seexatane meel cusub markaa imaado hurdiciyo maba iga timaadaba okay bella waay nalka makaa dimiya maxaa dhaca adiga ma daalanid miya aniga daalkaaga waxaaba iga reebay quruxda adiga qabto soo maaha maxaa waayena aabbahaaga ayaa keenay kolley waaba dabeecaddiisa soo maaha qofkan ma xasuustaa si fiican u fiiri maya gootam waayna ya saqajaanimadu way ka muuqataa gabadha gadaasheeda maxaa hey istaajiyey sidaasaa dhihin wiilka waa miskiin gabadhana walaashiis nanduu waay haddii uu maskiin yahay gabadhaas dhankeeda maxaa u dadejiyey waayaabe maxaan ka ognaa wuxuu sheegaya hadda inay dhab yihiin ma sheegi karno run iyo been dadkaan u doodan inay ku hadlaayeen iyo in kale laakiin waan arkaynaa kolley sheekada meesha ayna dhigto hal midaan rab inaan kuu sheego haye maxay tahay ii sheeg ka waran xafiis kale oo yar haddii aan iskaga guuro oo meeshaas aan degno si lacagta ugu yaraan ay noogu baaqato may middaas ma suurtagelayso sababtoo waa halka meel aan ka bariisaysano waad saxan tahay laakiin adiga dhaqso ma soo laabanaysa yaa okay middaas tan kale waxaad ogaataa dowladda mar walba wax un waa laga fishaa meesha aan ka shaqayn waa inaan ka fogaanaa oo la hubaa sidaas ma jeclaysata okay midaa ku weydiinaa marka haye ka waran kiiska dhegeysiga dacwadda haddii uu kuga adkaado maxaa sameynaa waad saxan tahay okay isku day marka inaad guulaysato waan arkaynaa kolley maadaama aniga aan ahay xeeralaaliya maxaa dhacay saameyn kuguma yeelan kara miya mis sabanaysaana ka waran hadday dhacdo okay haddii sabasho ay jirto isbuuc ayuu guurkeena dib u dhici lahaa taasna markaas anigaba sidaas ayaan ku dhihi lahaa runtaada miya ebi ebi meeshaan fiirihe
galuusyada kaligooda ay iska furteen ka waran waqtigooda lama furmaayaan oo maxaa dhacay yaaqay sidaas maahan shala soo kuma doodeenin go'tam gabadha inuu qasbay fiir adiga bi aanu shaan ka hadlayaano ma xasuusta cidna ma qasbin yaaqay waa kuwana waxaan ayagu cidna isticmaalin hadda iska furmay dhageyso arrimaha maxkamadda gurigeena keen arrimahaasna waan ka wada heshiinay ha ku baryaa markas ku day inaad waa saxan tahay raali ahoono haye waayo hawshaada wada naga daa markaa war aad hay ku qayliniyo hay kaal aniga ma ku qasay ku qayli war isdiyaar wara juluus furan iyo mid go'an miyaan hadda u joognaa meeshaan lacagaa lagu tartamooyaa lacag ayaana loo baahan yahay maxkamadda goordhow gaashaanlaha ayaa imaanaya intuusan imaanin kahor lacagta waa in la lacagta loo baahan yahay may qawaayne dhib ma laha u kaadi bil hal maryaa iga raal noqo halo haa jos halo haa ibin ayaan soo wacay ibin hadda ma joogo maxkamadda ayuu ku maqan yahay oo waan fahmay dhibaato maa jirto hadda waxaan joogaa saldhigga borokotaa nin aan saaxiibbanahay wiilkiisa ayaa saldhigga lagu xiray asaga iyo asxaabtiisa ayaa isla socdeen waxayna ka imaadeen baar qamriga lagu iibiyo balse meeshaas qof ayaa ku dhaawacmay waxaan ku weydiinayaa sanii ma taqaanaa adigana waad la socotaa ninkaas arooskaaga ayuu ka soo qayb galay weliba hadiyad qaaliyana uu kuu keenay bal ka waran marka sidaas darteeda adiga ayaa lagu baahan yahay fadlan saldhigga ma imaan kartaa jose sabab aniga meeshaas ku ibaa kara ma jirto laakiin sabab hadalkaas maxaad ula jeedaa sharci iyo nidaam ayaa jira soo maahan qodob ayaana i qabanaya xataa booliska ma samayn karaan waxyaabaha ka hadlaysid maxkamadda arrintaanaan u dayno hadalkaas adiga sideed ku dhigi kartaa ninkaas wuxuu sameeyey malaha taas xataa in maxkamadda laga caddeeyo soo uma baahna dabcan waa howl adag haa laakiin sidaas sax maahan balse wax walba waan arkaynaa hay iga raali noqo oo dhaqsamiyaa timidna ها maanta macmiil ima aysan joogin teeda kale waxaan ogaa beritoole in kiiska maxkamadda laga furayo saa darteeda usoo dhaqsaday hay soo qabaysayaa raashinka waa diyaar okey maduu sababta wax u karinaysa maxay tahay maanta beritoole hool ayaan leeyahay marka hadda inaan wax walba soo gabagabeeyo waan ku qasbanahay okay maduu maxaad u dalban weysa marka maya inaan dalbado ma rabo taasna waqtiga qaadanaya maduu bal ka waran haddii beri galabkii aan fursad helno oo aan u tagno ninka josh lagu magaco isagaa noo wacay maxaan ugu tagayaa sababtoo qofka aniga aan u doodaya meeshaas ma joogo waynu ognahay taasna ma laga yaabo inay suurto gasho balse dabcan waxaan fahmay sheekada haddii isaga qusan lahayd sacaddaan waa tegi lahayd soo maha haddii loo baahnaan laha waa samayn lahaa maduu waxyaabaha aan aniga ku dhahayo iyo dadka waxay dareemayaan iyo booliska waxay isleeyihin ka waran hadday is yeelan waayeen sababtaas ayuu kugu yeeray isaga saaka soo adiga ima dhehayna arrimaha shaqada gurigeena inaad keento looma baahna anigana sidaasoo kale aan ku leeyahay joycena wax walba way u hagaagi doonaan waa haddii asaga uu wax fahmaya balse annaga ma ogin soomaan arrintan inuu fahamsan yahay isaga arrinta markay reer ay qaabilsan tahay arrintaas aad bay u wanaagsan tahay tanna waxyaabo fudud ayaan ka soo baxo mid kale ayaan ku hayaa bal ka waran haddii kiiska maadaama uu nagu adkaaday qof walba caawo casho haddii aan ku cusubno ya casho ahaa macnaha isagaan wacaynaa casho ayaan ku casuumaynaa kadib raashin war adiga maxaa kaa qaldan waxaas maba ka wada hadlin see u samaynaya biil kama wada hadlin laakiin hadda waa loo baahan yahay soo maahan hay caawa animaa ku dhaha marka waa ihee kiiska beri goormeen diyaarna haddaa dad ii balmisid wax badanna lama joogayan wax yar lana la joogayan adima oo go'aana kaligaa iska gaaree ka waran holo badanaa layga baahan yahay yaaqiina dhammaystiro hay dhib badanaa maduu aan garab kugu sii hawsha guriga hay maxkalam kugu soo daraane u kaada anaa kuu soo dhiibaayo aho gabadheeda u sii dhiiba jabaati ma kusoo dhiibaa kiiska arrintiisa halka ku dambeeya haa waa la shirqoolay nin aan saaxiibanaa wiilkiisa ayaa maanta la xiray wuxuuna dagaal ku gala baar qamri gudihiisa adiga taleefonkaaga waa soo laakiin aniga maxkamaddaan joogay ها مضفية يا إيشكتي أيضا وعي بس إيما السنيمانين جويس مع ميش هذا أنا قفك وضوض يسوى وسوقي لعنت هذا القمية وإنه ميل هذا أوكي سيدي وين فهمي بس متى كقدب لكن نكاس وين محكمة لقبت بادية محايا لفم الكيسة وفم الكينة هذيك مو waxay kula tahay qofkaasi in si fudud wax loogu maqlay si fudud uu hadlaa di su'aal loo weydiiyay muran ayuu meesha la joogaa marqaatigana isagoo weliba hortiisa ka waran adiga dad u doodid aniga midaas ma awoodo sababtoo bulshada ayaan xeer ilaaliyo wahay
waynu samayn kar buusbal aabbo kuruurkooska isku xaafadda aan nahayn asaga soo abukaato maan haahee ninkaas waa nin fiican ninkaas arrimihiisa waaba ilooba balse hawsha dhan asaga ay qabanayo walaal kiiskaaga muxuu quseeyaa wuu socdaa kolley hadalkayga ujeedkiisa wuxuu ahay kiiskaas cidda lugta ku malaynaa wiilkii inuusan dembi lahayn dembi uu leeyahay midaas ma ogaan karno laakiin arrintan labadiin ayaa idiin qusaysa ayaa guulaysan doona guul lagama hadli karo waqti xaadirkana baa kiiskan haddii aad ku guulaysatid dadku waxay ku dhahayaan xaaskiisa ayuu garab siiyey balse haddii aad ku guul daraysato ceeb iyo fadeexa ayaad kala kulmaysaa okaad anigaa kuu soo dhiibaya anaa qaadaya seedigiyo xilkan markaad qabanaysay ma waxaad hilmaamsaneed dhibaatadan faraha badan inay adig ku sugayso bw4 fiimaha sharadaar kiiska hadda ayaa la furayaa magaca vimal waxay la tahay inaad isla shaqaysaan dhibanaha ama qofku waxa loo geystay midkood haa mudane okay waxaan u malaynaa saaxiibadaada inay yihiin soo maaha ma ka dareentay labadooda inuu ka dhexeeyo saaxiibtinimo wax ka dheer hanhan iyo shulshul waxaa igu soo gaaraysa labadooda in jecel ka dhexeeyo muran soo maahan kollay muranka dadkoo dhan waa uu dhex maraa laakiin waxaad ii sheegtaa qolkooda waxyaaba qiic ama holac ma ka aragtay sidaan wada ognahay labadooda xafiiska xitaa waqti ayay ku qaadi jireen mararka qaar haddii fasax ay ku jiraan si gooni ayay u wada kulmi jireen xataa waxaa maqlay daroobalka meelo khaasa in uu gey jiray dadkoo idinla taas way og yihiin wayna ka dhergsan yihiin garsoore xanta sideedaba caddeyn ma noqoto mana aqbali karnaa annaga wax kala keena mudan garsoore anaga kiiskan waxaan u falanqaynayna u baarayna wax kale maahan waxaan doonaynaa horta kiiskan xaqiiqdiis inaan taabano dadkan saaxiibtinimada ka dhexaysay ma saaxiibtinimo caadiya mase mid jacayl ku laran ay ahayd middaas ayaan doonaya inaan xaqiijiyo oo bannaankaa keena marka ma ku kaldanayo garsoore gabadha iyo wiilka shaqo ayaa ka dhexaysa waqti badanna way wada joogi jireen waxaa laga yaabaa inuu soo kaxayn jiray gurigeedana uu keen jiray taas macnaheeda maaha labadooda inay isjecel yihiin gabadhanna waxaa isaga qaldan xiriirka shaqada iyo midka jacaylka waa inay kala garataa marka hore maadaama adiga awokaato aad u tahay ma waxaad caddaynaysaa dadka inuusan jacayl ka dhexayn markuu xaaladaasii marayeen u kaadiya idinka haddii aad dood u baahan tihiin bannaanka waa inaad u baxdaan halkan waa maxkamad abukaataha markuu wax waraysanaayo ha ka soo dhex gelin waa hawshiisa iga raalno garsoore anushka iyadoo la joogta eed aadi soomaan qolka gotham oo u degnaa hahe waayahay sababta ma ii sheegi kartaa adigoo og wax walba inay dhaceen haddana xaggaas maxaa ka doontay aniga waxaa rabay gotham guriga uu degan yahay inaan aado ilaan mashruuc ayaa naga dhexeeyey asigaan igu yidhi meeshaas igu imaamo markaan tegane waxaan u malaynaya keligiis inuu ahaa anigana waan soo baxay anuusha ayaan soo kixiyey hosteelka ayaan ka soo kixiyey kadibna gurigiisa ayaan isugu wada tagnay cabitaan ayaan wada cabnay dhammaanteen fikraddaas yaa keenay markaa fikirkaas gotham ayaa wata waayahay adima cabtay maya ma cabin bawrado ayaa isugaya soo maa meesha waxaa ka cad anushka markaas inay cabsanayd ayay sii wad sheekadaba waxaan rabay subaxda kale inaan u tago gotham ayaaba isoo wacay wuxuuna ugu yidhi fasax ayaa tahay duurkaaga iska gal gotham markii wadahadalka uu socday anusha ma cabitaan ayuu ku qasbay maya alloora eedaysana sidaas ayuu leeyahay anusha 2 bakiir ayay qaac ka siisay waxayna rabteen iska joojiso balse gotham cabitaan fara badan ayuu meesha keenay gabadhana way daldashay kadibna maya anusha dhaqankeeda aad ayuu u wanaagsan yahay balse gotham ha bedelin sheekadaya tartiibta mudana garsoore ninka dhibka geystay wuxuu jilay gabadha in uu jecel yahay laakiin taas waxay caddaynaysaa gurigii keligeed inuu ku soo reebtay kadibna cabitaan uu siiyey xoogna uu ku siiyey ugu dambeenna vamaal meesha laga soo diray hawshana meesha sidaas ay uga socotay isagoo weliba iska dhiga inuu gabadha jecel yahay waan ka baxay mudana garsoore firmaal habeenkaas anuushaa way cabsaneed soo maaha cabitaanka gotham yaa siiyey maya waaye yaa siiyey anusha waan oo keliya ayay cabtay markaan waddada soo marin ayaa hore u soo iibsanay oo waayahay waxaan ku weydiinaa abaartamentada cabitaanka ayada ee geysay ma isaga ayaa ku qasbay inay cabto sidaas ma ay ka dhaadhici rabtaa maya ayuu yidhi waayahaye adiga soo kama keena hosteelkii haa okay markaa labadiin is soo raacayseen ma weydiisa ma dhahda aniga inaa raacdo diyaar ma u tahay su-aashaas ma kaaga jawaabtaysa ayada waa weydiiyey balse gotham wuxuu ugu yidhi aniga ayaa hor u kaxeenaya gabadha adigaa soo kaxeeyey
weliba nin ayada ka sarreeya oo shaqaale ayaad uga soo tagtay gabadhaas haddaysan la jooggiisa ku qanacsanaan gootam siduu ku dhihi lahaa anaa keenaya ka tag ayada kama cabsanin maxaa yeelay jawi degan ayay ku wada jireen anigana markaan soo baxay waxaan dareemay bixitaan inayba ka helin gabadhaas waxaad ula jeedaa haddii ay ayada raalli ka ahaan lahayd in ay baxdo way ku raaci lahayd soo ma waad saxantahay garsoore dabcan sida ay waxu jiraan way cad yihiin waxaa lagu wada ballamay in cabitaan la wada cabo gabadhaanna ayadoo cabitaankeeda wadata ayay guriga timid fursad waxay u haysatay cabitaankeeda markay dhammaysatay kadib in ay baxdo oo ay firmaal raacdo balse waxa ay ka doorbiday in ay harto gootamna waqti dheeriya ay la sii qaadato cabitaanka haddii la wada cabay qaabkii loo fikiraayo mooye qaab kalena ay wax u dhaceen sababta eedaysanahan looga dhigayo gootam oo keliya maxay tahay maxaase asaga keliya maxkamadda soo istaajiyey weliba lagu eedeeyey haye ma joogaa yaa wayne ibinaan ku dhaha ma joogaa waa ku jiraa mudana soo dhowow dhibka labadiinadii haysta waa maxay kiiskaas murankiisa maxkamadda ayuu ku egyahay inuu annagana saamayn diyaar umani arrimaha kiiska iskiilow wax kaloo dheeri maa jir intaan meeshaan iman ayaan hore u soo arkay waad iga hubtaa sooma labadiina khilaaf inooda ka jirin arrintu way iska fududahay laakiin wax sidaas u badan maahan joosh maalinka aynu gurigiisa aadin 2 maalin ka hor wuxuu samaynayo dhan been ayay ahaayeen ebindartiis ayaan aniga u aamusay inuu idifaacay ahayd balse ma uusan samaynin soo ma ogid sidaas ayay ku tiri hahey allahna anaga iskama indhitiri karan wax jira yaaqay wax ayada dhibaa wax kale maahane iyo samadaada oo keliya waa aniga si taas wax igu soo sheegtay sidaas darteed ayaan kugu imaaday xogaa isku dhex yaacdaa malaynaa sheekado idil haddaan fahme todobabax meeshaad ka aadi lahaydeen soo dalxiisi lahaydeen qolka maxkamadda ayaaba isku qabateen ileen labadiina abukaata ayaa wadatiin stress inuu imaado maxaa diiday hal fikir ayaan kuu sheegaa maduu isbeddel ayay rabtaa huma ay cisuumaad samaysay meesha markay imaado kadib ayaa arrintiina la gelaa gartana meeshaas ayaa lagu soo xalina wax walbana dhammaanaya seedigaaga xariifka aane qallaaska dhexdiina ka abuurana meesha lagu soo afjaraa mawduuc haddaynu halkan keenno arrinta meeshay taaganta way ka sii xumaanaysaa adiga waa kaa khibrad badana ileen waa kaa weynahay arrimaha waxa keenane waan la socdaa anigii u kalsoonaa wax walbo aniga ayaa xalinaya waayahay haye hilib ma cunaysaane macaan waay inay soconin gabadhaad u jeedaa dhibka maad ka daysidne iyo qadadkaa dhibka ayaaba ka bataybo iska fadhi gabadhii wax walba aniga xalinaya cabitaanka qac ka sii gaarigaa ku kaxaynaya marka yaa qaas adkeen waan ku ogaa abukaata ayaa tahay qac ka sii cabitaankan waa qaali micnihiis mataqaanaa ku dhibaya dabcan waa runtaada intee laga keenina walaalkeeda ayaa haddii ahaan igu soo dhiibay halka abaalan u haya wax kale maahan 2 sano oo bahashaan ii soo dhiiba jes ibnow bahashaan faa'iidada ay leedahay adiga lama socotid seediyaalkoo idinla way caawisaa adiga seedigaada bahashaan ayuu ka ganacsadaa sahay ganacsigiisa uma kala socdo seedigaaga la hadalno baarkaa la kacsan furadhe ani adigana waa tagayna ku soo caweynaynaa aniga kaftaniga ma aha dhabta ayaan ka hadlaya ganacsi hadduu samee u kala kaciisaa soo sidaas maa maduu maxaa waay micniga joseph taas garab ma nagu siinayo dabcan haa laakiin qaabka loo hadluusan aqoon mar labaad igu ceylibal waxaan ku dhahay qaabka loo hadluusan aqoon mooye sida kale uu iska fiican yahay ninkaas nin hadalladiis sarbeeb ku jirto waa dadka qaarna madaxa ayuu isku geliyaa dhibaato male wax walba waa la beddeli karaa waxa keliya oo loo baahan yahay ayaa ee qof walba qaabka kula dhaqmo waa in loola dhaqmaa taas kole anigu waa igu adagtaa laakiin ninkan xaggiisa waa macquul inuu sameeyaa laga yaabaa maya aniga meelna ii jihaynin soo kuma sheegin wax walba inuu sameeyaa macquula ninkan ma naxo hadalka xataa wuu iska soo tuuraa leh dhegaysaani josh wuxuu yidhi kiiskan waa inaad ku guulaysataa middaas ayaan ku khasbanahay soomaa ma qaldanayo markii sheeg kiiskan xeerkiisa waa 375 markii loo fiiriyo xeer ilaalinta anigana waan ku khasbanaya inaan difaaco waa difaaca waa taa daldalay sidee macnaha anigaa daciifnimo iga aragtaa miya yacni maduu sidaas ulooma jeeda ibn hadalkiisa qalad ma sidaas ayuu ka wadaa ninkan aniga waan fahmi karaa waxa uu damacsan yahay mar walbana ragga dumarka daciifnimo ayay ku eedeeyaan laakiin aniga isaga kama aanan filayn sidaasoo kale inuu ila dhaqmaayo maduu maxaad ku hadlaysaa yaqay ma sidaas ayaan ula jeedaa ta kale maduu adiga iskuma kalsoonid yaqay aniga maan isku kalsoonayn haa yaqay iskuma kalsoonid way iska caddahay mar walba aniga adigu dulurganaysa dhibaatada ku haystaa middaas qofka aanan isku kalsoonayn waa adiga sababtoo ah adigoo xeer ilaaliya ayaad haddana waxaa u dhaqmaysaa sidan qof aanan waxba ahayn oo kale xitaa ma jawaab celin kartid
ma laga yaabo inaan ku oggolaado kiiskan inaad ku guulaysto awooddeeda iyo xirfaddeeda ii oggolaanaya kiiskan in aan ku guulaysto haddii aad ku guulaysto waxaad ogaataa xeer ilaalinta inaan iska soo casilahay xafiiskayga awokaatinimada dib aan ugu soo laabanay waadna arkaysaa BW3 Usha Kumari. Usha Kumari soma ها aniga waay maxaad qabataa shaqadeeda waxay tahay guriga wiilkaas inaan hagaajiyo wiilkaasa waxaad ii sheegtaa ma aragtay ashuu isagoo qolkiisa ay ka soo baxayso haa mudane miyay caddayn kartaa marka dabaqa lexaad codka kor u qaad waa ku baryaa aniga dabaq lexaad ayaan joogay gabadhaas markaan arkaaye gurigiis ayaana ka soo baxaysay wiishka ayaana sugaayay ayadoo albaabka taagan ayay hab siisay aniga ayadana wiishka ayaa isla soo raacnay wiishka sooma dhihin wiishka markay saarnid way oynaysa soo maaha may ayada qof faraxsan ayaa u ekeeday laakiin riboodka saldhigga yaalay booliska wuxuu caddaynayaa adiga inaad tiri gabadha markay wiishka saarnid way oynaysay booliska inaan sidaas dhaho ayaga ayaa iigu qasbeen adiga warka miyaa kaas kaxanaa mise wax kale ayaa jira waxaad leedahay markii albaabka tagtay hab ayaa la siiyey qaybta kale booliiskana taas maadan u sheegay waan ilow inaan meesha ka sheega aniga gartay meeshaan uga bax mudan garsoor ushaa markaa arkaysa adiga bahashaan miyay xirneedna ma wadatay haa labiskan ayay wadatay wayna ku qurux badneede waayahay ma noo xaqiijin kartaa dharka ayada habeenkaas ay xirneed in galuusyada uusan ka go'nayn mise maya ma arkin waayaha laakiin waa hotaa dharkan inay ahaayeen soo maaha habeenkaas dharka ay xirneed waana huwaa dharkay wadatay inay kuwan yihiin mudana garsoore markhaatiga waxa ay noo sheegtay anuushaa qolka goobta markay ka soo bixaysa dharkeeda kuwa bad qaba inay ahaayeen halka gabadhan anuushaa lagu magacaaban ay sheegtay dharkeeda in galuusyada ay la'aayeen arrintaas sidee isku waafaqaysaa kiiskiina adkaysa ayay ugu tala gashay mudana garsoore qofka dhibanaha isku sheegaya waxaa looga baahan yahay caddayn macquula oo la qaadan kara in maxkamadda uu la yimaado gabadhaana caddayn la qaadan kara maxkamadda lama aysan imaan ayadii abukaateedaba waa laba kala dara marka maxkamadda waxaan ka codsanayaa wiilka maskiinka maadaama dembi uusan lahayn in maxkamadda ay fasaxdo mudana garsoore markhaatiyaasha waa in dib loo waraystaa garsoore horaan loo waraysta waraysigu dhiman muxuu yahay maya mudan garsoore waxaan aaminsanahay waxyaabo kale inay jiraan oo loo baahan yahay in la caddeeyo marka taas darteed iyo waa fasaxan tahay waxay ila tahay dharka ay wadatay inaad xusuusto soomaan go'an iyada maa wadatay haa way wadatay su-aashan ku weydii iga jawaab garbasaarkan ma iyada saarneed maya oo rahaa haa way wadatay haddii dharkeeda uu jexjexnaa waxay noqonaysaa garbasaarkan inay isku qarinayso soo maaha haa okay haddii taas aan kuu raacno qofka dharkiisa bad qabay garbasaarkan ma saarnaanaya ii sheeg maxkamadda maanta ayaa kugu horraysa soo maaha haa mudane mala socotaa su'aal walba lagu weydiiyey jawaabta aad ka bixiso in maxkamadda ay faa'iido u tahay kiiskana fududayn karto waa inaad ogaataa mala socotaa wax walba ood meeshan ka caddayso maxkamadda inay kugu qaban karto xitaa laga yaabay su'aal haddii lagu weydiiye jawaabta qof kale aad ka raadis soo maahan taas jawaabta xaggaad ka raadinaysaa haa ayadaa i dhahda saan dheh markhaatiga la keenay waxaa noo caddaatay in abukaataha uu warka qaadanayo abukaatada waxay kuu sheegtay ayaad soo qaadis soo maaha adigana kaale sideed ku awoodid qof su'aalahaad weyddi lahayd inaad ka soo dhistid goobtan waa goob maxkamadeed ma ahin meel lagu cayaaro isma aanan lahayn abukaataha kaa soo horjeeda adin sidan ayuu u fogayn doonaa mudana garsoore markhaatigaan arrintiisa waa in meel la saaraa maxkamadda waxaan ka codsan lahaa mudana garsoore abukaatahan isku dayay in markhaatigan si qaldan oo u isticmaala isagana in dacwo lagu soo ogo meeshaan uga baxay dhegaysiga xiga 11 Oktoobar ayuu dhacaa haa mudana garsoore maya mudana garsoore sabab maxaa dhacay dad kale in nagu soo dhistid miyaad rabtaa arrimo family ayaa naga dhexeeya
adiga familka soo kama tirsan middaasi waan ka dhega faraystay waaya dhegaysiga xiga 15 Oktoobar ayaan ka dhignay mudan waxaan doonayaa inaan la kulmay sayraa waqti dhow weliba si maxkamadda wax walba oo cad ay uga sheegto okaadi bal hadda ayaan wacaya gotom haddii la dhaho waa la xukumaa ilaa meeqsana lagu xukumi karaa 10 sano xarig in lagu xukumo ama noloshiisa inta ka dhiman inuu xabsiga ku jiro kolay kiiskay ku xiranta kiiska ma laga laabo karaana kiiska meel looga laabto ma jooga hadda sababta taas u danaynaysa maxay tahayna muranka maxkamadda ka socda waxaan dul qaadan kara maahan laakiin waxaa tahay weli ma aysan caddaan middaas ku xisaabtan walwalka iska daa marka waan dareemi karaa arrinta markhaatiga qaabka aad u fahantay waxyaabaha aad sheegaysana wax ma soo kordhinayaan waayo gabdho fara badan ayaad niyijibinaysaa zayra xili walba inay kula kulanta diyaar u tahay gootam sayraa haddii la helo kiiska annaga ayuu nagu soo rogmayaa marka waxaan rabaa ayada inaan la hadlo ayaga ka hor waxaa macquul inaysan i dhegaysan aniga soo saaxiibtaa ma aha xaqiiqada u sheegna maxaa dhacay haddii aadan saaxiibtaa qancin karin dadka kale sidee u qancin rabtaa bal ii sheeg saa u malaynaysa wax muu jiraan yaaq dhibka ku haystaba waa midkaas aniga ma isoo fiirista gootam markaa ila hadlaysid siday wuxuu jiraan ii sheeg yaaq wax kasta inaa kuu sheega muhiimiya haa weliba waad ku khasban tahay ha iloobin qofka keliya ku badbaadin kara inaan aniga ahay weli shaki miyaa kugu jira adiga ii sheeg dhaqso ana shaah aniga waan ogaa inay ii jeclayd ayada arrintaas adiga sayraa ma kala hadashayna sayra ayada naftirkeeda ayaa ii sheegtay laakiinse aniga muu malaynin arrin sidan o dhan inay weynaanayso hadda aniga qof aan khiyaano waaye annaga maxaa naga quseeya jawigii jacayl iyo xamaasadda heese ayaan rabay inaan la qaado laakiinse aniga muu malaynin inay sidan oo dhan ii jeclaanayso habeenkaas wax dhaxaynay waxaan aniga qorsheeye maahan ee dareen ayay ku dhaceen waa ku baryaa isku daynayaa mid maxkamadda inay ku aamintaan loo baahan yahay aniga muhiim ma aha haddii aan dhaho inaga gursada ayaan rabaa waxaan oo dhan ma dhammaanayaan waa wax laga xishoodo waa ku baryahay badbaade anushana cabis anigaa weydiisanay anushaa oo keliya maaha dadkao dhan ayaa lagaaga baahan yahay ma samayn kartaa dhammaantood raaligelin arrintooda ma ku xallin kartaa dhaqso sayraa wac ilintaada waa inaad tustaa ayadoo keliya ayaa ku badbaadin karta aniga waan ogaa gabadhaas inay ii jecleed kiiskan haddii aad ku guulaysato xeer ilaalinimada waan iska soo kansanaya xafiiskayga uu kaatinimada dib ugu soo laabanaya waxaad ogaataa anushka markhaatiga keliya loo haya inaad adiga tahay sababtoo ah saaxiibteeda qaaska ayaadna tahay taasi waxaa sii cad maxkamadda arrintan way ku wareersan tahay sayra waxaana loo baahan yahay si taxadar leh arrimahan inaan u galno waxaad ii sheegaysaa hostelka markaad ku soo laabatay waxyaabaha dhacay oo aad la kulantay aniga qolka markaan galo waxaan arkay anuushaa urutay inay nafsadda isdhaafsiiso ugu horrayntii mindida ayaan ka qaaday kadibna wadna ayaan ka riixay waxaana maxaa kugu dhac bala ii sheeg maxaa ku daaray aan ku caabee balse ayadmaba ila hadlinbo
waxayna tahay gotham ilaa iyo kollejka inaad istaqiineen noloshiisa hore iyo xiriiradiisa haddii aan wax kaa weydiin waxaad iga sheegi doontaa soo maa mudana garsoore ha u ogolaana kiiska arrimahaana qusaynin in lagu soo diro halkaana la keeno mudana garsoore waynu ku khasbannahay qofka dhaqankiisa iyo dabeecadiisa hore inaan wax ka ogaanan waa muhiim waad u fasaxan tahay waa mahadsantahay mudan garsoore fadlan iiga jawaab intaad taqiinay shabeelnaagood ayuu ahaa soomaan tii u arkana kama aysan fakanayn haa wuu lahaa laakiin ii sheeg ma jirtay mid gabdhahaasi ka mid ah oo xiriir dhab ula waday maya xiriiradaas uu waday oo idil ma jirin qof uu daacad u ah soo maaha haddaanan qaldanayn inta gotham kiiskiisii arrimihiis aan falanqaynan waxa macquul ah su'aalo xasaasi ah inaan ku weydiiyo oo kiiskas halis ku ah ma aaminsan tahay adiga anushaa in gotham si xad dhaaf u jeclaa uuna rabay inuu guursado waa sidaas gotham isagana wuxuu jilay soo maahan inuu jecel yahay si ay u aaminto wax walbana ay uga oggolaato maya aniga ma aqaan su-aasha miyaan kugu celiyaana maya igu celin wax walba waa maqlay su-aasha ay weydiinaysa jawaabteedana ma aqaan gotham ma uusan ogayn soo maahan anushaa inay rabtay inuu isaga guursado ma ogi waxaan ogaanay inaad tahay qofka labadoodaas baray maya ani waxba uma sheegin mudana garsoore markhaatiga su'aale la weydiiyey way ka jawaabtay waa runtaa su'aal kale maa qabtaa iyuu yahay qofka fikirkaaga beddelay abukaate xadkaada ha gudbin meeshaan ugu baxay mudana garsoore anuusha iyo adiga xiriirka idinka dhexeeya muxuu ahaa noo sheeg labadana hal qol ayaan wada deganeen anuusha qof madax adag miyay ahayd dood ayaan ka qaba mudana garsoore mudana garsoore dhibanaha dabeecadihiisa inaan ogaado muhiim ayay ii tahay maadaama aniga aan difaacay eedaysanaha noo sheeg marow gabar madax adag ayay ahayd ayada arrimo ayada qaas oo ah hosteelka ay ku samayn jirtay ma jiraan bal nala wadaag maxaa ka mid ahaa xili dambe ayay hosteelka imaan jirtay kadibna waa lagu qiili waxaa layidhi xili dambe haddaad imaadid howsha dhan waa lagaa saarayaa intaas ayaan ogahay aniga wax kalena ma jiraan waayahay wax isbeddela ma aysan samaynin miya maya waardiyahan waxba ma uusan dhihin hosteelka aan degneen warqadaha sharciyada iyadagoo ka dhacsanaa ayadana kadib waxay dhahday waa idin dacweynayaa wixii markaas ka dambeeya maamulka maba la hadli jirinba taas macnaheeda waxay tahay anuushaa wax walba ayay u samaynaysaa si danteeda ayada ay u gaartay soo maha mudana garsoore u kaaday adiga sii wado mahadsanid garsoore adiga xaggeed joogta anuushaa markay isku dayaysay in ay isdisho saaxiibadeeda qolkeeda ayaan ku jiray ma kula tahay haddii aadan adiga ka gaari lahayn wax walba in ay sida iyada ay rabtay ay u dhici lahaayeen oo nasiibkaagay ku badbaadayay waxaan ku weydiinaya qolka adiga sidee ku gashay ma jibisay mise waa u furnaa albaabka albaabka ma xirnaan anushaa inay isdisho ayay rabtay sidaas ay tahay qolkana ma aysan xiran soo maaha waayahay anushaa adiga markaad gudaha u galaysay dhiig miyaa ka socday bal taasna iiga jawaab sidee ahayd maya ayad sariirta ayay ku fadhisay gacantani midda ayay ku ayay gacanteeda dhaawac maa ku yaalay maya taas macnaheeda waxay tahay ayada inaysan rabin marnaba inay isdisho laakiin adiga waqtiga loo baahnaa ayaad u tagtay soo maaha mudana garsoore laba arrin midood ayay noqon kartaa sababta gabadhaas ku kaliftay waxyaabaha noocaas oo kalea in ay samayso midda koowaad waxay tahay ayada waxay rajaynaysay sayraa in ay ku aragto iyadoo midida gacanta ku haysata kadibna gootam ay u tagto arrimaheeda ay kala hadasho amaba waxay noqon kartaa in ay rabtay sayraa in midida ay ku aragto kadibna kiiska ay ku sii adkayso oo caddayn la aqbali kara hadhow maxkamadda ee la hor timaado dood ayaan ka qaba mudana garsoore sida ay markhaatiga hadalka ku bilowdayba gabadha dhibanaha way madax cadkeed marka wax walba ayaa ka suurtoobi karay intaasaan oga baxay garsoore haya abukaate wax kale maa kuu dhiman maya markhaatiga way iga dhammaatay haye qof ka soo horjeeda adigana caddeemo kale maa wadataa maya garsoore kiiska 313 waxaan iskugu soo laabanaynaa oktoobar 23-keeda wixii go'aaneene markaas ayaan gaaraynaa mahadsanid garsoore manduur adiga dartaada ayaa gootan seeraha oo la hadlay nasiib ayaanba leenahay gabadha hadalladii ku hadlaysa haddii beddeshay adeer walwalkii iska daa maanta maalin annaga noo wanaagsan ayay ahayd
إن إذا سوقري كوما أبايا هذا ساستا مع سلام ابن وحان موضوع القادم دوناني mudana mal kiiska maanta in soo gabagabeen rabay laakiin gabadhaas isbedel ku dhacay ma aqaana meeshuu ka yimid iyo wax sabab laakiin horjoogaa sidaa filin ma noqon soo ma si ay ninkaas u badbaadisay ay waxaan u samaynaysaa hore adiga mid xasuusnaayo shaqada iyo familka kala saar tan waa xirfadeena la soco adiga ma waxaad igu yeertay gabadhaas guusheeda inaad igu qanacsan aniga ebil aniga mid aan kuu sheego adiga kulama jiro ayadana lama jiro balse kiiskan ha dhawaato ama ha dheeraato kulley ugu dambeyn uu soo gabagaboobi doonaa balse noloshiina ha burburinina ilaahay goormee sidan u kala aamusnaanaysaan ha kiiska waad bilaaban kartaan jawaabta aad bixinaysa waa inay noqotaa mid lagu qanco markhaatiga wuxuu yahay moogta adiga haa waa fahme gabadha lagugu eedeeyey wax maa idinka dhexeeyey may mudane in aad isguursan doontaan adiga miyaa ka ballan qaaday may mudane 24 May 2019 wax inay idin dhaxmareen ayaa maqalna wax miyaa ka jiro haa mudane cabitaanka adiga miyaa ku qasbay may mudane adiga in ay ku jeclayd horay muu ogeed ii sheeg bal haddii lagu weydiiyo su'aal aad isleedahay kiiska ayay nagu sii adkaynaysaa jawaabtaada maya ha noqoto haddii kale cid ku badbaadin karaysa haba yaraatee ma jirto may mudane aniga waxba kama ogin wax kale inaad idhahdi miyaad doonaysaa mudane runaantii aniga anusha saaxiibadeeda ayay ahayd ku talgalne ma aan u khiyaanna ayada waa ku bariyaa isku daynayaa mid maxkamadda wax kale inaad u sheegtaan miyaad doonaysaan haa garsoore mudane garsoore marka ugu horraysay ee gabadhan u doodayay kiiskeeda aan su'aashaan weydiiyey waxay tiri ninkaani aniga isaga waan isjeclaan weliba aniga waan jeclaa wuxuuna iga dhaadhicay isagan inuu ii jecel yahay muran fara badan ayaa imaaday maxkamaddana markhaatiyo fara badan ayaa la keenay sheekada waxaa lagu soo koobay bis saaxiibtinimo inay meesha ka jirto balse su'aashaasi markaan weydiiyey qofkaan u doodaya innagoo idil wayna saamaysa oo jawaab saxa ilaa iyo hadda maxkamadda ma aysan helin weli way ku wareersan tahay sharcigana waxaa u bannaan qofka xaaladdan oo kale markuu galo in sharciga si wanaagsan uu fiirsado arrintiisna uu koorgalo markaynu dib u raacno qodobada 415 iyo 375 intaba waxay noo sheegayaan xaaladdan oo kale qofka markuu galo in maxkamadda loo baahan yahay in si fiican ay ugu fiirsato kiiskiisna caddayn saxa ay u hesho sababtoo ah kiiskan bulshadoo idil ayuu saamayn karaa waxaa laga yaabaa xitaa sharciga dhibaato inuu u keeno sababtoo sharciga waxaa loo sameeyey in dadku u kala badbaadiyey dumar fara badanna waxaa suurtagalaysa sidan oo kale in lagu sameeyo kadibna sharciga uusan wax u qabanaynin sababtoo ah aamusnaanta ay waxay suurtagelisay qorshahan hadda la soo bandhigay sabablaan inuu sii socdo maadaama anushka ay matalayso gabdhahoo idil waxaan maxkamadda ka codsan lahaa kiiskan dib in loo fiiriyo qofkaasna dembiga geystay ciqaabtiisa in la marsiyo waxaa laga yaabaa maxkamadda in la ilduufay mudana garsoore annaga sharci ayaan leenahay sharciganana waxa uu sheegayaa qof waliba ciqaabtiisa inuu maro dembiga uu leeyahayna in lagu qaado balse annaga bulshadeenna mar walba dumarka ayay saacidaa tusaale ahaan marka wiilka qalad uu galo ciqaabtiisa ayaa la marsiiyaa balse gabadha mar walba excuse ayaa loo raadiyaa hadda waxay leedahay gabadhan ninkan wuxuu idhahay waa ku guursanaya balse haddii wiilka sidaas uu dhihi lahaa lama qaateen hadalkiisa marba haddii uusan wax qalada lahayn sababta gabadhaas ula sinaan waayo maxay tahay miyay sheegi kartaa war dembiga labadooda way wada galeen ayadana raalli keed asagana sidoo kale raalli ayuu ka ah sababta asaga dambiile ka dhigaysa ayadana dhibano ka dhigaysa ma ii sheegi kartaa cadaaladda
sideedaba waa in loo sinaadaa aniga dumarka ma difaacayo raggana ma difaacayo laakiin mar walba cadaaladda ayaan u taaganaha waa inay si saxa u shaqaysaa dadkana waa inay u sinaadaan waa in isku si loola dhaqmaa gabadha maalin walba xaqeeda haddii ay u dagaalanto waa wax wanaagsan laakiin ninka ragga ah xaqiisa hadduu u dagaalamo waxa uusan qalad ku lahaynna uu sheego ma ahan dembiile in laga dhigo hadalkiisa waa in la qaataa magaca dumarnimo ma aha annaga sharcigeenna in loogu soo gabado garsoore waxaa loo baahan yahay waxaa lala imaanaya maxkamadda in ay xaqiiqo noqdaan haddii ay taas dhici weyso qof aanan dembi lahayn ayaa ciqaab maraya weliba mid uusan mudnayn gabdhaha waa in marka hore ay bartaan sharciga waxa uu ogol yahay waxaan u ogolayn mudana garsoore xeer ilaaliyaha isagoo sharciga ka faa'iidaysanaya ayuu rabaa macmiilkayga inuu dembi uusan lahayn dusha ka saaro waa ku baryayaa maxkamadda dib waa inay u fiirisaa xaqiiqadana waa in ay raacdaa qofka masaakiinka ana la sii daayaa kiiskan wax badan ayuu soo jiitamay 4 November ayaan iskugu imaanaynaa AC 196 maxaa kugu dhacayna manduu abbaa inaan kula hadlo ayaan rabaa ahay soo fariiso manduu adiga iyo ninkaaga wax idin dhex mara aniga maanan ogeyn gadaal ayaan ka ogaaday abbaayo waxaan ogaaday maalinta maxkamad aan joogay kadibna aniga arrinkaas waan ka aamusay waxaan ogaaday inaan danaysto ahay adiga wax qalad ma lihid laakiin manduu aniga ma ogi gootam inuu dembi la'aan yahay in kale mana rabo inaan ogaado hadda kadib walaashiis ayaan ahay inaan difaacan xaq ayaan u leeyahay danaystinimana inay halkan soo gasho maba loo baahnaba weliba anagoo xaaladdan ku jirno xaaladda hadday sidaan ku sii socotane idinkay idin dhibay anigan ma u dulqaadan karo si aad walaalkay u badbaadiso adiga noloshaada ha u baabi'ini middaasna waa doqonnimo kiiskan sidaana khatab oo dhammaana laakiin adiga iyo ninkaada isfahma gabadha xafiiska ayaa laga soo wacay noo soo laaba ayaa layidhi laakiin ayada way iska dhegatirtay arrintaasna haddii aan annaga qarinay qalad kuma lihin hadda ma kula taha kiiskan annaga natiijo fiican inaan ka helino inta karaankeen annaga waan dadaalnay sheekada garsoorka ayay u taalla hadda wanaagun baan rajaynaynaa anushkaasi qaas inaan la hadlayn doonayaa waaya dhibaato male waxaan u malaynaa inaad walwalaysid waad saxan tahay anigaba taas waan kula qabaa sababtoo ah kiiskan labadeenaba waa una qoseeya haddaan ku guulaysana wayna anfacaysaa inan qof aan jeclayaa meesha ku lumay soo maha si kastay ahaataba haddii aan ku guulaysta dhib ma lahan haddii xitaa aan badbaanan dhib ma lahan laakiin ma duuxitaa sidaas ayay rajaynaysaa waan ogahay kollay waxaan arkaa kiiskan waxyaaba aanan filayn inay ka soo hoosbixi rabaan sababtoo ah seeraa qorsheeda waa ay badashay seeraa intaysan maxkamadda soo fuulin maduu aad bay u naxsanayd laakiin seeraa xaaladdeeda markay isbedeshay maduu aad bay uga faraxday annaga haddaynu awokaatannahay jawaabta ma fiirino balse su'aashii qofkaan weydiinayn qaabkay u saamaynaysa jawaabtu ka bixinahay intaas ayaan fiirinaa balse su'aasha meesha taala waxay tahay sayraa maxaa keenay inay isbeddesho ooryaa sababay isbeddelkaas inuu dhaco middaas ayaa muhiim aniga garsooro maahi sababtoo adiga ayaan rabaa inaan kuu doodo waxaan doonayaa marka muhiim ii ah inaan ogaado sababta keentay adiga dib inaad dacwo ugula laabato iyo arrimahaas waxaad nii weydiisay gowtam inta lagu xukumay sabab aniga moogi mana sheegi kara midaas markuu idhaa aniga kuma guursanaayo waxyaalo fara badan ayaa damca ilaa fahansiiyo laakiin asiga waa iga diiday waqti xaadirkaas aniga waa u xanaaqay run ahaantii
markaas kadib aabba ayaa ii imaada wuxuuna yidhaha ninkaas waa ilaa dacwo ka gudbisaa laakiin arrintaas kama aana fikirin intaana samaynin ka hor waan ogaa inuu ahaa qof aanay fahmaynin laakiin fursadaa wax ku fahansiiye moosay siinin way fiicnaa leed taasi lee dhacdo sababtoo ah degnaan ayaan wax walba isku fahansiin lahayn waxaa laga yaabay ma aqaana ma sheegi karo kiiskan haddaad ku guulaysata xataa xaaskaagaa waqti la qaadanayso maaha balse guuldarrada iyadu umaad haddaad aragto ma ku farxin aad ii sheeg anigana saasoo kale dareemaya saas darteeda seeraa uga codsada go'aankeeda ilay beddesho iga raali noqo aad iyo aadaa uga xumaay مدو مدو أبي جور وريك مرني صايق مدو إيجور وريك أبي وكبر يا صفيري وما حسنا هوي هوي ماشي كان لاحظة نيدا ما حاول إنك ببوحة ماشي كنتن لاحظة أي شيء 8 6 9 إي 8 8 9 eedaysanaha wuu joogaa garsoore kiiskan muddo fara badan ayuu soo jiitamayay caddeemo fara badan iyo dood fara badan marka ay ka dhacday waxaan go'aansannay maanta natiijada dhabta ah ee kiiskan ka soo baxday in aan ka hadalno aniga kiiskan markii aan fiiriyey waxaa ii soo baxday in qodobka 415 lagu qaado eedaysanaha maadaama dembigan si ku talagal ah uusan u galin waxa dhacayna ay shil ahaayeen
sababta eedaysanaha loo fasaxaayo wax kale ma ahin qofka marka uu dembiga galaayo waa inuu miirkiisa qabaa labadan qofood marka ay dembiga galaayeen miirkooda ma joogin maadaama aan caddeemankii iyo markhaatiyaalkii aan dhegaysannay waxaan go'aansannay in aan ku xukunno qodobka 375 eedaysanaha uuna gato 10 sano ee lagu xukumi lahaay wuxuuna bixinayaa 50,000 oo rubis مدو في عنتها هنا shaqo kale oo annaga hadda booska aan taagan oo kale na gelin karta habeeraatee ma jirayso wax walba waxay ahaanayaan wax shaqo oo keliya ku kooban tan kale madu qalad iyo sax inaan fiirino lama baahno sababtoo anaga garsoorayaal ma nihin tan kale caddaan iyo madow markay isku lifaaqmaan waxay noqdaan midab gareey loo yaqaan waa intaasoo keliya dabcan muhiimaddu waxay tahay mid uun inuu noqdo madu waad murugaysan tahay gootam xarigiis miyaad ka murugaysan tahay mise guuldarradaada ii sheeg bal labadaba balse adigana mid aan ku weydiiyo qoftaada sidaasoo dhan inay daciif u tahay ma kula ahayd may cabsi ah sheegintaa هي ما حنو قرشها مركادا محكمة السر طبعا حكله waxaad doonaysaa soomaan qof kale nolosheena filimkan waxaa lagu tarjumay dabcan anigoonan dagaalamin isma studio dhiibaayo Farmcross Mogadisho wax badan ayaan idiin sheegay meeshaan in ay tahay maxkamad sidaad rabtaan ma ugu doodi kartaan idinka haddaad wax isu qabtaan guryo ayaad qabtiin gurigiinna la aada naga raali garsoore